الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان وعن أو وناكسن أخيارتنا دقيسانيسا meel waliba oo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka Andalus Podcast toddobaadkan waxaan barnaamijka ku falanqayn doonaa duulaankii Tuufaanul Aqsa iyo xasuuqa ay Yahuudu duulaankaas kadib ku qaaday magaalada Gaza oo laga joogo muddo 2 sano ah waxaan sidoo kale falanqayn doonaa oo aan wax ka baran doonaa xaqiiqda usalka ku hayo siraacan iyo taariikhda halganka dadka reer Filistiin iyo sidoo kale kaalinta mugga leh ee reer galbeedka iyo dawladaha cadbeed ee dabadhilifyada ah ay ku leeyihiin xasuuqa lagu hayo dadka reer Gaza waxaa igala qayb qaadan doona barnaamijkan oo marti ku ah Abwaan Negeye Abwaan Jesto iyo Abwaan Hilaal waxaana sidaba aad ka dhahan kartaan martida barnaamijka ee aan ku marti qaadnay qayb ka noqon doona xalqadan gabayo cusub oo ay abwaanadu ka curiyeen ama ka tiriyeen duulaanka magaalada Gaza marka hore aan soo dhaweeyo Abwaan Negeye oo garabkayga midig fadhiya abwaan soo dhawo walaal Faysal waa mahadsan tahay maalintii ay bilaabmaysay Tuufaanul Aqsa aan waxaan joogay Xamar runtii waxaan xusuustaa xanuunkii badnaa dadka guud maaragtay isku wada dar xanuun badan baa runtii lala dareemay reer Falastiin markii Tuufaanul Aqsa ay dhacday jawaabtii ay ka bixisay Yahuuduna runtii waxay ahayd jawaab aad u fool xun oo xasuuqa aynu caawa ka hadlaynay 2 sano kadib aroornimadii uu bilaabmay ayay runtii ahayd waxyaabaha runtii dareen geliyey waxaa ka mid ahaa maalmihii ay socotay Tuufaanul Aqsa ay bilaabantay waxaan oran karaa toddobaadkii ugu horreeyay magaalada Kunyabar ayaa waxaan kaga qayb galay dad muslimiina oo Soomaaliya oo runtii caruur dugsiyada hoose dhigata u badan oo halkaas ka sameynayay mudaharaad ama isu soo bax ay ku diidan yihiin xasuuqa ay Yahuudu ay ka wadaan Gaza oo calanka Yahuuda iyo kan Mareykanka lagu gubay waa gartay runtii dareen weyn ay ilaahid waa gartay kugu soo noqon doonaa Abwaan Jesto soo dhawow bismillaah Faysal waa mahadsan tahay Falastiin iyo xasuuqa ka socda magaalada Gaza runtii sida uu abwaanku uu maarta ka dhawaajiyay isla maalinta uu dhacayay duulaankii loogu magac daray Tuufaanul Aqsa waxaan joogay magaalada Xamar runtii marka hore farxad buu ahaa oo dad la dulmiyey oo xaqoodii la duusiyey ayaa qaaday duulaan xaq ah oo maaragtay ay dalkooda iyo ciidooda ku difaacanayaan qadiyad sidoo kale waxaanu arkaynay falkii guracnaa ee ay kaga jawaabeen maamulka Yahuudu kaga jawaabay kaas oo aan oran karo waa xasuuq iyo dulmi daba dheeraaday oo hadda soconaya ilaa iyo maalinta muddo 2 sano ah marka kolley dareenka uu aniga ii leeyahay waxaas leeyahay waa dareen xanuun badan waa dulmi iyo xaqdarro aan oran karo dadka waa lagula kacay marka intaasaan dhihi lahaa waa gartay waa kugu soo noqon doona abwaan markaan waxaan siinayaa Abwaan Hilaal abwaan soo dhawow bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah allahumma wafiqna lima tuxibu wa tardaa waad mastay walaal Faysal nahantii horta waxa weeye qof kasta oo muslina arrintaa Gaza ka socota waa arrin meelaad kaga taala guud ahaan marka si guud loo eego ummadda muslimiinta aniga gaar ahaan saa la wada sheegay horta maalintii aniga lafteeduna ay markan u dambeysay Tuufaanul Aqsa bilaabantay
xilligaa waxaan joogay Hargeysa waxa weeyaan xataa halka anigoo jooga mar kasta waxaan haddana wararka xasaasiga iyo wararka ubuucda iyo wararka cumqiga ka helayay warbaahinta islaamiga ah warbaahinta kale way kooban tahay wax sida wararka warbaahinta islaamiga Andalus ay had iyo jeer ugu xidhan tahay oo waxa laga yaabaa Andalus inaan barnaamij kasto ay soo deeysan maalin walba ma maalin kasta barnaamijka caalamul yawm inaan laga waayin awalna waliba hawsi badnaan sanadkii hore waxa laga yaabaa barnaamijka caalamul yawm inaan laga waayin qasawarkeega iyo marka halka ay marayso update-keegu waxa weeyaan marka ma halkaan joogay wararka Andalus baan si deeply uga soconay waxa meesha ka dhacay maahantii waa masiibo waxa weeyaan masiibo bilaadanimo waa meesha marka eegto inta hubaa lagu isticmaalay aad rogtaa diyada wax lagu diloon laga isticmaalay ma jiro oo la sheegay wuxuu dhigmaa hubka loo isticmaalay intaas oo bambo nuclear ah waa hubka lagu dumiyay wax la wixii dhismaaha waa hubka dilay ku dhawaad 30 wax ku dhow caruura baa lagu dilay guud ahaan 70 wax ku dhow inay dhimashadu haddii weli weyn ka badan filayay ayay dadka lagu dilay maanta gaarayaan marka kulay dadka qaar baa waxay ku eedeeyaan qasayn amba Xamaas inay weerar iyadu qaado gacanta ku hormartay laakiin sa muxaqiqiintu sheegaan horta marka hore meesha dagaal baa ka socday oo meel furan isku hor fadhiyaa bay ahayd Israa'iil gacanta waa laga hormaray una qorshaheedii markasta ka noocan uu yaalay inaysan wax xasuuqda waa wixii lagu yaqaanay guud ahaan dadka muslimka ah basanaho ummadda muslimka markaad eegto waxaad moodaa maanta inay god ku jirto dhagaxan la dul joogo dad god ku jiro kamada xala soo baxayna dhagax la dhacay hel fire lagu dhufanayo marka run ahaantii waa masiibo iyo waxaan taariikhda lagu sheegin in intoo la soo xidho waliba dadka ka qaybta qaadanaya ee ummadda xasuuqeeda qaybta ka ahina in waliba dad muslimiin sheeganaya ay yihiin oo intoo afarta dhan looga soo waday cadowgiina uu wuxuu doono ku samaynayo dhammaan dadkii kalena daawanayo dadkaasina gaajo lagu dilayo xabad lagu dilayo naxdin iyo cabsi gelin lagu dilayo nooc kasta oo qof bini'aadan loo dilo adduunyada waa markii horeysay la iskugu daro damiirka maxaa saas u dilay marka maxay kula tahay waxa weeyaan ummaddu mar kasta oo ay ka tagto ummadda muslimka ah nabi maxamed baa sheegay sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa quraankiisa ku sheegay dadkani diin bay leeyihiin diinta mar kasta oo ay ka tagaan oo ka fogaadaan waxay u noqonayaan bahalaha ayay u noqonayaan fariisa iyo ugaadh oo waxa weeye nabiga calaysalaatu wasalaam wuxuu yidhi markaa ka tagtaan jihaadka ee aad xoolaha dabada qabsataan saynta calaa macna alxadiis sallallahu alayhi wasallam waxa weeyaan ummaddani diinteedii markay ka tagtay waxay baylah u noqotay dadka adduunyada dadkii ugu xumaaya cadowgeeda ahaa sida maanta aynu geeska Afrika uga jiro halganka iyo loolanka culus ee inagaba qaar dusha la inooga saaray dabadhilfa ayaa iyaga laftoodana qaar dabadhu waxa la sheegaya in 70 kun oo askari ay joogaan daanta galbeed oo xukumayaan Maxamed Cabbaas mid kale yiraahdo saasoo kale waxa weeyaan waxa la sheegay askarta inay tababarto Mareykanka iyo Yuhuud ay tababaraan oo gacanta ku hayaan marka ummadda muslimka meel kasta ay joogto intan baaba la arkayaa yahan waa ummad gacanta lagu hayo cidii loogu talagalay loo dhiibtay dadka yar halgamaya farakutiriska ah ee jihaadaya mooyaane inta kale barnaan bay u fadhidaa cadow ismana oga hadaan maanta wax laga baran oo laga faa'iideysan 2 sano gudaheed maanta wadan qurayac wax iska yiraahdo wixii wax sheeganay wadan qurayac wax iska yiraahdo Iiraan baa kamani lahaa waxbay haysaa wayna arkaynay waxaan ka yaabnay hadal cajiib ah oo taraamiri waa inay iyadoo dulaysan noo timaadaa buu marka laba gabayo kibir leeyahay baan ka sameeyay mar baan insha Allah duubi doonaa waa gartay cashan waxaan ka yaabnay wali kibirkaasi malaha fircoon baa laga soo helaya sidoo hadlay Trump imika markuu hadlayay lahaa waa inay hub ka dhigtaa sidoo hadlayay waxa dareemaysaa in fircoon oo sidiisii maanta nool yahay waxa weeyaan caalamka islaamka nimankii sheeganayay iska dhigay dawladuhu sidii hore loo sheegay waa cufri libaax ismoodaya mid quraho Israa'iil iska waabisa miga mar quray ay Lubnaan baabisay Suuriya hadiyaha bay doqonaysaa saasoo kale Qatar oo iyadu xataa diyaarado F-16 ku faani jirtay iyo Patriot inay haysto gantaal wax difaaca inay Mareykan ku tiirsan tahay lacag inay haysato waniga arkaynay wixii ku dhacay oo hinteedii iska daayimka cid kale Turkiga baa baqayo isla had meedna ku dhufan doonta dhammaan wixii muslimiinta hor taagnaa waxay noqdeen lagooyo iyo buushay marka maanta ummadda ninkii jihaadayay Ilaahay diintiisa u noqday kitaabkiisuna u noqday ninkaas baa awalba hadii la dhimanayo wala dhimanayay ninkaas baa hal mar dhimanaya inta kale 900 jeer bay dhimanayaan damiirka maanta dadka muslimiinta ah aad ayuu u baraarugsan yahay shucuurkoodan wuu sareeyaa laakiin maanta waa bulsho aanan haysan hogaankii hagi lahaa oo
dalalkoodii laga hirgeliyey dowlado ay hogaaminayaan madax Yuhuudda iyo Mareykanku ay soo barbaariyeen talada iyo xukunkana ay u dhiibteen hubkii iyo silaaxiina gacantooda lagala baxay marka dareen iyo shucuur oo kaliya mudaharaad la qabto ayuu soo kordhin karaa mudaharaadkiina maanta Filistiin iyo reer Gaza uu ka joojin waayo gumaadka iyo xasuuqa ku soconaya taas ayaana u sababa waxaan marka insha Allah taala barnaamijkan podcastiga inta aan ku guda jirno waxaan diiradda saari doonaa xaqiiqada uu salka ku hayo siraacan iyo loolanka u dhaxeeya reer Filistiin iyo maamulka Yuhuudda waxa uu ku qotamo markan waxaan soo dhaweynayaa Abwaan Nageeye Abwaan sidaan la soconaba waxaa jiray maqaal aad qortay oo aad ka qortay wixii dhacay 7 Oktoobar iyo duulaankii xigay ee Yuhuuddu ay ku qaaday marinka Gaza bal marka hore dhageystayaasha faahfaahin kooban waxaad ka siisaa loolankan halkee buu ka soo askumay bismillah walaal Faysal waa mahadsan tahay sidaad sheegtay loolanku horta muddo socday dee kumanaan sano mararka qaarkood ayaa loo celin karaa loolankaas magaalada Qudus oo kale inta jeere la kala qabsaday ama inta jeere la dumiyey ama inta jeere lagu dagaalamay taariikhan runtii waa badan tahay kanaan hadda ka hadlaynaa waxa weeyaan waa deegaamayntan cusub ee hadda Yuhuuddu qarniga ugu dambeeyay la oran karo way ku deegaamowday xuduudahan hadda samaysan yihiin markaasaad sheegtay maqaalkaas oo runtii warbaahintuna ay baahisay wuxuun baan ku guud marnay uun adigu 150 sannadood ugu dambeeyey dhacdooyinkii meesha ka dhacay wax kooban oo ka mid tusaalahaan oo kale hadda sahyuuniyiinta ururkan cusub ee ay leeyihiin Yuhuudda waxay yidhaahdaan dhammaadkii qarnigii 19aad ayaa maaragtay Yuhuuddii markaa Yurub deganeed waxoogaa isu soo urursaday baa waxay ka fikireen bal sidii ay u samaysan lahaayeen urur weyne Sahyuuniya oo iyaga danahooda maaragtay ay kaga arrinsadaan marka dhismahan cusub ee hadda Jewish state-ka ama maaragtay jamhuuriyaddan cusub ee Yuhuudda ee laga sameeyey Falastiin waxay yidhahdaan inta ugu badan leh ururkaas iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo waxaasaa laga yaabaa qaybo badan oo ka mida inuu maaragtay ay ka dhalatay marka dadkii Yuhuudda ahaa ee xilligaa Yurub deganaa iyo shirarkoodii iyo markii dambe natiijadii ka soo baxday dagaalkii koowaad ee adduunka oo Cusmaaniyiintii maaragtay ay dhacday boqortooyadii Cusmaaniyiinta ugu dambeysay ay ku dumi doonto 1914 ilaa 17 iska baabi'i doonto iyo natiijadii dabcan dagaalka ka soo baxday oo hadda inuu Ingiriisku uu la wareego meelihii boqortooyada Cusmaaniyiintu ay ka talin jireen oo dhulkaasina uu ka mid ahaa arrimahaas horta dhacdooyinkaasaa qayb ka ahaa inay maaragtay sidaas ay wax u dhacaan 1917 oo kale Balfour oo wasiirkoodii arrimaha dibadda xilligaas Ingiriiska ahaa Ingiriiskuna xilligaas waa xilligii ay dhihi jireen dee qorraxdu kama dhacdo calankiisa maaragtay uu aad u calan waliinayay wey marka natiijooyinka walaal waxyaabaha ka soo dhacay iyo Ingiriiska oo qorshahaas dabcan taageeray oo u arkay in danihiisa istiraatiijiga ay uu ku jiro inuu Yuhuudda ururiyo uu bariga dhexe geeyo si ay u noqdaan gobol isaga ka mid ah danihiisa mar walba matala ay u noqdaan waxyaabahaas runtii ayaa walaal fududeynaya marka Yuhuuddi dabcan waa la isu soo ururiyay sida taariikhda dhamaanteen maaragtay aan wada garanayno mudda laga shaqeynaya Yuhuudda in dhulkaas ugu deegaameeyay Ingiriiskuna uu xukumayay runtii dhulka Falastiin hadda la yiraahdo marka Ingiriiska xukumayay oo dabcan ka shaqeynaya Yuhuudda inay dhulka soo galaan iyo dabcan dadkii muslimiinta ahaa ee carabta ahaa laga yaabay in baraarug fiican aanay runtii qabin waxyaabaha bariga aad looga shaqeeyay waxa kamid ah in carabta la yiraahdo Turkidu muddo ay soo xukumayeen oo identity-giiniba idinka lumayo idinka xaq u lahaa inaa wax xukuntaano iyaga laftooda maaragtay laga dhex shaqaystay la kala qaybay marka wuxuu bay ku war heleen reer Falastiiniyadoo dee kumanaan Yuhuudi ay dhulkoodii joogaan dhulka ay dadka Yuhuudda ay joogaan dabcan Ingiriiska taladiisa gacanta ku haayo oo dadku sidii hadda adigii abwaanku si fiican uga sheekayseen dad tala badan gacan ugu jirto ma ahayn dawladii mandate-ka meesha haysay xukumaysana iyada ka shaqeynaysa in dalkaagi la qabsado oo la soo galo waxa iska bilaabmay maxaa dagaalkii labaad ee adduunkuna waa kii maartay wax ka bilaabmeen waxyaabaha arrintan sii dhiiri geliyay marmarsiyaha sii sameeyay waxa kamid ah Hitler iyo waxyaabihii uu ka sameeyay Germany
oo holocaust wixii ay u bixiyeen in maaragtay xasuuqii yuhuuddi Yurub xilligaa ku noolay marka yuhuuddi ay victim card ama maaragtay dulmane ay isu arkeen oo dadaan dhul lahayn oo aan dal lahayn oo u baahan meel ay ku badbaadaan ay xoqdeen taxta shamsi waxaan u baahanay meel adduunka maaragtay qorraxda hoosteeda hal meel oo aan kaga noolaan ayaan u baahannahay marka ay sidaa u doodaan marka Hitler iyo dagaalka iyo dabcan markii dambe Jarmalka iyo dowladahaasi ay ku jabeen oo Ingiriiska iyo dowladaha guuleystay dabcan ay noqdeen qaramada midoobay oo markaa la sameeyay oo iyaduna shaambad wixii aad rabto aad ku xalaalaysan karto oo adigu markaa doonayso Ingiriiska iyo golaha amniga maartay veto power kule oo wixii uu rabaa markaa cidina diidi karin waxyaabahaas oo dhan waxay fududeeyeen in sidii Ingiriisku uu markaa wuxuu qorsheeyay ay maartay shaqada inteeda badan ay u socoto taas markaa waxay keentay in Ingiriisku golaha ammaanka iyo qaramada midoobay waxa horgeeyo meeshii Yuhuudina way joogtaa Palestiinina way joogaan Carabina ereygaas ay isticmaalaan Carabina way joogtaa wax rabnaa dhulka u qaybino dee dhulka loo qaybiyo markaa qorshay soo jeediyana in laba hadda waxaan two state solution ka ay dhahaan xal laba dowladood oo darisa inay soo jeediyaan dabcan dee dadkii muslimiinta carabta waa diideen dee laakiin waa xilli nimanka ay xididaysteen maaragtay deegaamin fiican loo sameeyey hub la siiyey dowladdii meesha xukumaysay ay iyagii garab siinaysay taageeraysay inay dhulkii ku doogaamoomaan dee wuxuu baa xigay 1948 in lagu dhawaaqo marka statekii maxaa la yidhaahdaa yuhuud kadib oo madax bannaani ay maaragtay ay ku dhawaaqaan 14 May meelaha kadibna dee carabtii deriska la ahayd iyo wixii markaa ay baraarug ay maaragtay ay sameeyaan oo isku dayaan inay la dagaalamaan laakiin dagaaladii ay sameeyeen oo dhan dee Ingiriiska ku jira dagaalka Mareykanka ku jira Faransiiska ku jira dowladihii reer Yurub awoodda badnaa oo dhan baa ku jira oo safka yuhuudda taagan oo logistics wixii farsamaa wixii hubba wixii dhaqaalaha wixii oo dhan bixinay carabtina waa dowladaha hadda shalay iyo daraad Ingiriiska ka xoroobiyay mid Faransiisku shalay ka tago la wada baabiyay weeyaan taas markaa waxay keensatay in dowladihii carbeed dagaaladii la galay oo dhan inay runtii ay ku soo jabaan oo maxaa la yidhahdaa intii dhulka u harsanayd Golan Heights la qabsado oo Sinai la qabsado oo maxaa la yidhahdaa Jordan wax laga qabsado maaragtay intii markii hore doodu ka taagneed laba laabkeed meelaha qaar gacanta lagu dhigo marka ay baryaanba intii hore iska qaato bal intii dambe noo soo celiy marka walaal saasay ayay runtiida iska ahayd xilliyadii dambe wuxuun baa dhacay dagaaladii carabta iyo maxaa la yidhaahdaa iyo yuhuud 1956 soo bilaabmay ilaa iyo dagaalkii ugu dambeeyey 1900 maxaa la yidhahdaa 73 oo kale ugu dambeeyey 79 ilaa heshiiskii ay geli doonaan oo masaarida dagaalka laga bixin doono marka dagaaladaana cumuuman marka la soo ururiyo natiijada ka dhalatay wuxuun bay ahayd in carabtii loo cabiidiyey oo la ogolaysiiyey inay Israa'iil tahay xaqiiqo jirta oo aan la dafiri karin oo ay tahay in lala noolaado dee markaa dabcan carabtuna dagaalkii qaboobaaye waxaasa iska socday waa lagu sanduuleeyey runtii inay aqbalaan dowladdii koowaad ee xilligaas aqbashay ee dowladdii dagaalka ku jireen waxay ahayd Masar oo heshiiskii Camp David ay ku aqbaleen inay Israa'iil aqoonsadaan maraykan Sinai oo Israa'iil xilliga ay xoog ku haysatayna maaragtay laga baxo dagaal dambe oo maxaa la yidhaahdaa ay soo gasho Masar aanay jiri doonin kuwii kalena markay Masar hoobatay iyaguna way soo hoobanayeen ilaa haddana hoobashada runtii way socotaa marka khiyaanadan Camp David wixii ka dambeeya usoo noqon doonaa waxaan siinaynaa markan abwaan hilaal abwaan maxaa kaaga baxay qorshaha taxanaha ah ee yuhuuddu ay kaga soo dhaqaaqeen urur ee gobonnimo doon iska dhigayay dhulka Filistiin lagu deegaamiyey ilaa ugu dambeyntii ay noqdeen dowlad aqoonsi buuxda heshay bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waad nastay walaaleen horta guud ahaan dadka muslimka waxaa fiican inay mid fahmaan ummadda muslimiinta ah si guud waxay u halgamayeen oo ay herdamayeen dad marka si guud iyagana loo dhigo halkaa ah aynu naqano kufaaran bagaalo dadkaa waxa calanka u sidi jiray bulshada kiristaanka ama saliibiyiinta muslimkana waxa weeyaan si guudna halganku ugu dhexeeyay si gaarana meelaha wuxuu dagaaladu iyo halganku hadii jeer uga soconaya marka buucda hadii jeer dagaaladuna waxay ahayd dhulka bariga dhexe imiga Masjid al-Aqsa uu ku yaalo sida marka si guud taariikhda loo sheegay waxa la saliibiyiinta iyo muslimiintu waxay aad ugu dagaalameen xuruub saliibiya oo ka socday bariga dhexe iyo Masjid al-Aqsa iyo Andalus iyo geeskan Afrika marka sidii Andalus waa lagu soo kala baxay Andalus markii lagu soo kala baxay waxa isla markaa xoogaysatay oo muslimiintu yeesheen dowladda Cusmaaniyiinta dowladda Cusmaaniyiintu muddo dheer bay muslimiinta ka hor taagneed bal iyadaaba duulimaad ku ahayd oo saliibiyiinta dhabar jabisay oo dhul badan ka qabsatay Cusmaaniyiin markii la soo riixay aakhirkii dagaalkii u dambeeyey
ee faraha xananka looga saaray lagu jabiyey muslimiin waa ka carabi ay u raacday ingiriis ee la yidhi dowlad carabeed baan idin dhisaynaa ummadda muslimiintu waa inay horta ogaato in la jabiyo dowladdoodii la riday markii dowladdoodii la ridayna intii aan lagu dayne wixii maamul yarun meel uga sii jiray xataa la baabiyey oo lagu isticmaalay mabda la yidhahdo hadmi walbinaa waa la dumiyey wixiinii kadib baa laynoo dhisay markaa wixii la doonayey waxaa la doonayey markaa waxa ka mid ee laynagu soo abaqaalay markaad qoymiga beersa afalayso geedaha aad diidanta baa laga saaraa horta ina doonay kadib baa markaa lagu abuuraa waxaad rabtid wixii waxaad rabtid wax yeelayana waa laga harameeya anagu haramay maan naqaana macnaha masegaad beeratay qaar aana dooni maa kasoo baxaya oo iska soo downloadgareysmaya oo kasoo dhex baxaya waad ka dhex googeynaysaa si beertaadii geedkii aad doonaysay u kobco oo u baxo ummadda muslimiinta markaa markii la jabiyey dowladdoodii la riday waxa loo wixii yaraa u harsanaa na la dilay waxbaa lagu beertay markii wax lagu beertay la arkay lagu baraarugayna waxaa dhacday in ururo jihaadaya iyo jabhada muslimiin oo doonaya khilaafada inay soo celiyaan waxaan la beerayay inay la dagaalamaan baabiya ayaa soo baxay iyagina waa laga hosbixiyo daraawiish baa kamid cumar mukhtaar baa kamid Isudiin Qasaan baa kamid dadkii ku baraarugayna saasaa cagta loo mariyay iyadoo la adeegsanayo dad xun oo mar kasta inaga dhex buuxa dad xun baa ilaahay nagu sameeyay mar walba marka aakhir waxay maraysaa in dad xunkii oo ciidda ka batay oo turinayay iyo muslimiintii ma garanaysaa markasta jihaadaysa oo sidii loo ilaalinayo in yuhuudina ay aanay fadhiisanay dadaashay waa loo qiraa ragga ragnimadooda carabiyada wax kasta haysato maanta wax walba haysaa xataa carabi nuclear ka iibsan karaysa hadday dad fikirayo bal inay wuxuun iska celiyaan muso bal 50 sano kadib 100 sano kadibna wuxuun iska celiya ilaan dadku waa inay israado moogtay waxa weeye ummadda guud ahaan markii dowladdeedii saa loo dumiyey waxa loo dhisay waxa jiraan oo noqday wixii raggaasi abuurteen waxa weeyaan waa in wixii la doonayay ay gaaladu watay markasta ka dhex muuqdo ka xoog bato ka awood bato wixii kale daciifka ahaa ee lugooyada ahaa ee la sameeyeyna aynu daawano sida artificialka maalinteenu u baahannahayna waxbay noo tari waayo marka kugu soo noqon doonaa abwaan soo dhowow Camp David kadib maamulka yuhuudda sida u ekaaday Camp David sidii walaal Faysal aan sheegnay waa meeshii ugu horreysay ee dowladihii dagaalka kula jiray maamulka yuhuudda la sameeyey oo Masar ay markaa runtii hormuud ahayd dowladihii maaragtay dagaalamaya carbeed ee qowmiyanimada carbeed ku dagaalamaya waa laga bixiyey dagaalka madaxweynahoodii Anwar Saadaat waa Jimmy Carter oo xiliga Mareykanka madaxweyne ka ah waxaa lagu guuleystay in Masar ay dagaalka ka baxdo weer baa markaa caan noqotay wixii intaa ka dambeeyo dagaal carbeed oo aanay Masar ku jirin dagaal maaha runtiina sidaasay noqoto dowladihii kale carbeed dagaalkaas dagaal ka dambeeyo ay yuhuud la galeen ma jirin wixii intaas ka dambeeyey yuhuuddu waxay fursad u heleen dadkii reer Falastiin ay dhulkoodana qabsadeen maxaa la yidhaahdaa ay dee hubka xooga badanna ay u samaysteen inay meel cidla ah ka helaan wixii intaa ka dambeeyey wuxuunba iska ahaayeen dad masaakiina oo Falastiiniyiin oo dadaalayo oo iyagu isku dayaya gumaysigan caalamiga ah ee Mareykanka hubka ka helaya ee diyaaradaha ka helaya ee logisticska ka helaya iyo dad caadiyahoo maaragtay kacdoon bulsho oo maaragtay dhalinyaro iyo waxaasuna dhagaxtuurku maaragtay ah inay kula dagaalamaan marka horta walaal Camp David wixii ka dambeeyey inahaasunbay iska ahaayeen tanaasulkana uu israacay macnaha dee dad masaakiin oo dowladii xitaa carbeed ay iyagu leeyihiin isdhiibaba idinkaaba dhib badan be haddaa isdhiibi lahaydeen dowladii carbeedna way tanaasuleen shacabkii Falastiiniintana iyagaaba ku qasbayeyba inay yuhuudda isu dhiibaan oo dee xuduudahoo dhan ka xidhay oo derbiya ku wareejiyey oo godadkii ay samaysanayeen ka duminayay oo iyagaaba runtii la odhan karaa way uga darnaayeen maaragtay yuhuudda marka Camp David walaal wixii ka dambeeyey wuxuunbay ahaayeen in dadkii reer Falastiin ay yuhuuddu fursad fiican u heshay oo dhulkoodina ay ku qabsato deegaamayso maaragtay deegaameyn ballaaran ay ka samaysato ciddii dee ka hor timaadana ay si fudud ay u dili karto maamulkii hadda laga sheekaynayay carafaadkii waxaa loo sameeyo maxaa la yidhaahdaa Oslo Accord maaragtay heshiisyadii loo bixiyey loo sameeyo waxaasoo dhammaantood ahaayun sidii ay dadka maaragtay ay isu dhiibi lahaayeen ay qayb uga noqon lahaayeen maaragtay mashruuca weyn ee yuhuudda iyo Mareykanku ay wadaan marka wixii la soo socdaba 7 Oktoobar ayaa la yimid 7 Oktoobar iyo siraacan soo socday intaasoo sano muxuu ka bedelay oo wixii horey u jiray ahaa hore loo aaminsanaa ahaa 7 Oktoobar subaxii intaanay dhicin waxaa lagu fikirayay wixii ay u bixiyeen heshiiska Abraahimyada
oo la doonaya in diimaha lagu walaaleeyo oo maraykanka hormuud ka ahaa yuhuuddu ay ku jireen imaaraadku ay la socdeen dowlado kaloo hadda magacyadooda aynaan gargaranaynoo badanin la sheegaya inay qayb ka ahaayeen oo mashruucu dhammaantii unuu ahaa maaragtay in baytulmaqdisna uu yahay baytulmaqdisna uu yahay meel diimiyaha ibraahimyadoo dham ay wada leeyihiin buuqa iyo dagaalkii mushkiladuna ay iska dhammaato yuhuuddana loo caadiyey way saxeexeenba heshiiska imaaraadka iyo yuhuuddu way kala saxeexdeen trumpna maaragtay goobjoogu ka ahaa waxaa markaa la kerinayay in dowladaha kale ee carbeed inay iyaguna jidkaas marka waxaa fidsaneed gogashii looga farxalanayey qadiyadda falastiin iyo guud ahaanba wixii la odhan jiray maaragtay istaagtaaggii bariga dhexe ka jiray oo dhan la doonayay inay dhammaato caasimadda yuhuudda rasmiga ahina dee trump wuu saxeexayba inay noqoto maaragtay inay jerusalem inay qudus noqoto markaa mashruuc la caadiyeeyey oo laga dhigay in carabtii iyo yuhuuddii dhulka deganeed ay heshiiyeen oo la isafgartay oo mushkiladdii dhammaatay gogol noocaasa baa la rabay in la fidiyo arrintii horta 7 Oktoobar dhacday haddii hal wuxuun ay ku guulaysatay waxay ku guulaysatay siyaasaddii la doonayay in meeshaas ay ka hirgasho horta inay hirgeli kari wey kacdoonkiina ay soo noolaysay waxaa laga yaabaa hadda abwaankuna si fiican buu u sharaxay madaxda dowladaha islaamka hor fadhiya dowladnimadu horta waa inay dantaada ka shaqayso dadka muslimiinta hadda waxay ogyihiin dadka xukuma hal dowlad oo dantooda ka shaqaysa ama rabitaankooda ku joogta inaanay jirin ma jirto marka maadaama dantoodana aanay ka shaqaynahayn rabitaankoodana aanay ku joogin dadkii laysku dayayay in la suuxiyo oo ugu yaraan lasii xukumi karaa haddii guuxu bilaabmo inuu dherigu qarxaa wakhti badan ma qaadato waa laga yaabaa wakhti waa iska qaadan laakiin dad badan oo 7 Oktoobar ka hor waxaan moodayay waxay iyagu leeyihiin inuu yahay oo moodayay nidaamkuna iyagu leeyihiin inuu yahay oo moodayay madaxweyne iyaga dareenkooda iyo ka shaqeeya inuu yahay waxay ogaadeen waxa meesha xukuma iyo waxay iyagu doonayaan inaanay isku meel u soconin wakhti unbay markaa qaadan doontaa intay baraarug sameeyaan inay iska dulqaadaan oo waxay iyagu doonayaan ama wax iyaga dantooda ka shaqaynaya inay meesha keensadaan waa qodob kale marka oo duulaankan aad is leedahay banaankuu soo dhigay marka 7 Oktoobar ka hor wixii la filanayay iyo 7 Oktoobar shucuubtii siday u qaabaysa ma aha xataa bariga dhaxo keliya ma xataa galbeedka fiiri jaamacadihii ugu waaweyn moogtid gaalada wuxuun baa iskaga jiruun dad xoogaa maaragtay caqliga xoogaa isticmaalayo ku jiro leen waxan waa qaldan jaamacadihii ugu waaweynaa galbeedka ay ardaydooda waxay leeyihiin warniyo dadkan maxaa lagu haystaa maxaa loo leeyahay dowladeenu dadkan masaakiinta la leynaayo waxay hubka ugu bixinaysaa dadkii 20 sano kadib Usama bin Laden waraqiisa akhrisanaya ilaa ninkana waa saxsanay maxaa laga rabaa hadda waxay leeyihiin statisticska qaarkood iyo dadka 18 jirka ka yar Mareykan jooga iyo dadka maaragtay 60 jirka Mareykan jooga statistics ay isku barbardhigayaan dadka waaweyn 50 jir 60 jir Mareykan jooga boqolkiiba 60 hadda statisticska waa la hubin karaa ay qadiyada Israa'iil la dhaxsan yihiin oo ay u arkaan Israa'iil inay tahay in la taageero oo ay saxsan yihiin dadka laakiin digital age ka dhashay boqolkiiba wax yar ayaaba dadka intooda badanayba waxay taageersan yihiinba qadiyada Falastiin marka waxa laga yaabaa baraaraadyada ka dhacay shawaaricda waaweyn ee London iyo Paris iyo Spain oo galbeedka ku taala waxay leeyihiin dadka dhalinyarada waniyo maaragtay dadkan waa gardaran yihiin maxaa la ilaahay yuhuud jaamacadoodii baa xiriirka u jaraay jaamacadihii waaweynaa xiriirka maaragtay xoogaa ay ka dhaxeeyeen ay ardaydii waxay leeyihiin maya oo la soo qabanaya iyagoo ciidamadii Mareykanku xidhaya ardaydii wala ardaydu waa gardaran yihiin waxa taa xorriyadda qowlkii la ilaabay marka wala waxa laga yaabaa bariga dhexana dadku ma haystaan xorriyad ay ra'yigooda ku muujin karaan laakiin way guuxaysaa waxyaabaha guuxa keenayaan waxa kamid ah waxa Gaza ka dhacay waa u jeedaa shacabka maaragtay bariga dhexdiga Iiraan wixii ka dhacayna waa u jeedaa Suuriya hadda waxa laga wadana waa u jeedaa waxyaabahaas inay berri toole maaragtay Sacuudiyada iyo maxaarata masarta iyo waxa inay gaari doonaan qof walba waa u muuqataa marka waa hubaan haddii laga soo faraxasho maxaa la yidhahdaa Gaza oo la soo maro Iiraan oo wixii ka dhacay Dooxa la arkay Lubnaanna lagu daray xuutiyiinta waxa haystana looge bariya saadamba waxa la isugu imanaya Maka iyo Madiina iyo Riyaad iyo Ankara iyo Istanbul iyo meelahaas waa og yihiin marka dadka meeshaas degan in maxaa la yiraahdaa meesha loo socdaa inay ka weyn tahay Gaza ay ka weyn marka baraarug guud oo dadkii waxba yaanay samayn wax ficil yaanay samayn laakiin baraarug guud oo meel cidla baan fadhinaa maxaan yeeli karnaa ayaa laga arki karaa inay waxyaabaha ay samayn karaan dood hada taagan waa hagaag abwaanagey waa kugu soo noqon doonaa insha Allah taala waxaan sii wadi doonaa 7 Oktoobar iyo natiijooyinkii ka dhashay iyo halka caalamka ay ku sii jeeynayso
laakiin sidaan barnaamijka aan horey idinkugu sheegnayba waxaa qayb ka noqon doona gabayo ay tiriyeen abwaanada oo ku saabsan wixii dhacay 7 Oktoobar iyo duulaankii xigay ee maamulka Yahuudda. waxaa markan soo dhaweynayaa abwaan jeesto. abwaan soo dhawow, waxa aad ii sheegtay inay jirto tix aad ka tirisay mawduucan. nuxurka bal iyo ujeeddada muxuu ka hadlayaa? faysal waad mahadsan tahay. gabayga waxaa la yidhahdaa qayayaab. wuxuu soo baxay 12 Julaay 2025. waa gabay ka warramaya gumaadka isirsifaynta ah ee maamulka Yuhuudda uu muddada 2 sano ah uu ka wada magaalada Qase. waana gabay hiil iyo garab u ah carruurta reer Qase ee dulmiga iyo xaqdarrada lagu xasuuqayo. sidoo kalena go'doominta iyo gaajaysiinta la isugu daray. ugu dambaynta gabaygu Faysal wuxuu maaragtay la hadlayaa gumaysaha duulaanka ah. wuxuuna u sheegayaa in dadka reer Falastiin ay halgankooda gobonnimo doonka ah ay wadi doonaan, islamarkaana uusan marna joogsan doonin inta ay maaragtay xornimo iyo gobonnimo ka herayaan. ugu dambayn iyagu ay u hadhayaan dhulkooda iyo ciiddooda. dhab ahaantiina halganka reer Falastiin waa mid jiilba jiil u sii gudbin doono oo runtii ay iska dhaxli doonaan, oo marka uu nin dhintaba nin kale uu dhalan doono. waana kii hadraawi maansadiisii fido ku lahaa Falastiin raggeedii figlad iyo walaamaha foosba foos ma ku hubsaday, facfac ma isu dhiibeen, filka xiga ma lagu simay, cartan faylka ma u baxay, fadal ma u xidhxidhan yahay, faaruuq ma koraya, fido uur ma leedahay, faaqid ma u calool galay, faayo ma u mataan tahay, Falastiin ma geed baa halka faash ku laba dhaco laamuun ka foofaan. marka Faysalow waa halgan marka jiilba jiil iska dhaxlayo. waa halgan jiilba jiil maaragtay iska dhaxlayo oo runtii socon doona inta uu duulaanka iyo xaqdarradu maaragtay dadka lagu wado. marka gabaygu nuxurkiisu waa intaas, inahaasu istuu taagaya. waa gartay. inoo mare maansada qorshaa loo tirshaa laguna qeexaaye, qodobiya shuruuc baa ka yaal qaabka loo dhiga haddaan hadalku laba qaar ahayn qoonsi baa jira kolkuu xarafku meel qudha ka galo qaaf kalaa maqane marna qalabka maahmaah watiyo quruxda weeyaan. waa hiba rabbigu qaybiyo qolaya siiyaaye, qaadirkiiyo ilaah baa ku qora qaybta feedhahae, ninba qoondadiisuu helaa ama ka quustaaye, ummadday qareen iyo u tahay qaar caddaalada usha qaranka lagu toosiiyo qalinka weeyaan. qabiil laguma caayiyo tolkii qayro wadayaale, qofna laguma maagee runtaa lagu qormeeyaaye, saboolkiiyo ninkii qaawan baa lagu quweeyaaye, qani iyo ninkii xooglabay qawlalkii tahaye, qaamuuska weeyaan afkiyo quudka nololeed. haddii qowlnin weyn uu ka dhaco qadafna uu sheego, waa geed qalfooftii sariya laamihii qubae, xil baa qoorta kuu sudhan ninkii qada ku doontowwe, qayil iyo hadday qaad gashana qiimaheed dhimay, uma qaranto qaadiya hunguri qaab xun loo cuno ha qallixina geenyada qurxoon qoofalkaa dilay. arrin laga qisoodiyo haddaan qodob ku riixaynin, suugaanta qanigiyo tixuu qurux ma yeeshaane, aniguna murtida qaaligaa qayd ma dhaafsada dad xaqoodii laga qaatay baan ugu qareemaaye, bal inuu qalbigu uu degaan ugu qaboojaaye, maantana balqora waa qasiya qubanaheedii. caydigan gumaystuhu qashee sumuuca loo qaybshay, qoyskiyo qaraabadan rugmaday qadafna loo laayey, hooyadan qudhii laga jaree qaladka loo toogtay, aabbahan qisaas lagu xukumay xadhigna loo qoolay, qaafada duqayd iyo bulshadan gumuca loo qaatay, qaryadahan qurxoon iyo hablahan qaraxu googooyey, qaarkan hore qalfooftiyo lafahan qurubba meel yaallo, qoortan go'an, feedhahan qombobay, hidibkan qaydhiina, dhiiggan quban, xinjirahan qulqulay, qalabkan yoomaya, dhegtan qaadhay, seedahan qallalay, qoloftan duugowday, reerkan qaxay, maatadan qalqalay, qaxarkan loo geystay, qolkan dumay, qiyaamahan ku dhacay, qararkan soo daatay, aqalladan qubuuraha noqdee sinaha qaaqaawan, qaxoontigan duruufaha qabee sabanka loo quudhay,
quud la'aanta ubadkaa qadee qaraxa boobaaye carruurahan qadoodiga gamee qadana loo waaye qaylada baroortiyo ilmahan lagaga qaaqsiiyey qabaxdiyo qabaalladan jajabay qalaxdan yeedhaysa qabaxdiyo qabaalladan jajabay qalaxdan yeedhaysa seeftan qawle qaayahan burburay quruxdan aafowday qaskan dhacay umuurahan qarriban dunidan qiiqaysa dadkan wada qarqoomiya shacbigan qoobka lagu duugay ummaddaa qumbacatiyo bulshadan qarowla taahaysa qambaruurka ciilkiyo qalbigan quus la gubanaaya qamuunyada xanuunkiyo dulmigan lala qandhoonaayo dhaayahan ilmada soo qubee dhabannadii qooyi qayayaabkan weyn iyo dhacdadan quduura noo keentay bal qiyaasta waa wada qisiyo qiiro oohinee inkastoo dagaalkii qasiyo qadafkii beenoobay inkastoo qabkii reer galbeed qorigu uu diiday inkastoo khasaariya dhib iyo qaranjab uu gaadhay inkastuu qablaydiya ku dhacay qalabkii loo aasay inkastuu dhirbaaxada qasaan qaadan kari waayey inkastuu iswada qaawiyoo kibir isqaadqaaday inkastuu isqoolaaliyoo qariyo buur fuulay inkastuu qanjaha neefiyoo qumanka uu buuray inkastuu qarduun xoogsadoo himiladii qaadhay inkastuu qaloombiga hubkiyo qaraxya noo miisay inkastoo sutida loo qabtoo qorraxsi loo diidey inkastoo dagaal loo qasiyey waranka loo qaatay inkastoo qondhaca loo maroo qodaxda loo jeedhay inkastoo qarfaha loo degoo qabowga loo seexday inkastoo qadhaabkiiyo dhirtiyo midhaha loo quutay inkastoo qasay waaqisee lagu qaniimaystay inkastoo qabbaankii carbeed qarafna kuu diidey inkastuu gacmaha kuu qabtoo cadowga kuu qoolay inkastoo qiyaaniya dhib iyo qaxar laguu geystay inkastoo qadhaadh iyo sun iyo dacar laguu qooshay qurbadiyo maruunbaad ka bixi quustayaab kale qurbadiyo maruunbaad ka bixi quustayaab kalehe qarroggiyo hadhuubkii dulmigu qabada soo dhaafiye qarka iyo wuxuu taagan yahay qawrarkii sare eh gumaysuhu dhulkuu qaybsadee cadowgu uu qaatay qaash iyo mar baa lagu xorayn qaanse iyo leebe qaash iyo mar baa lagu xorayn qaanse iyo leebe quwaduhu maruunbay ku jabi qoorta falastiine qudus iyo maruunbay ka bixi qaaraddoo idileh colqatara mar uunbuu ka iman qaahiriya shaame qiyaadada dagaalkuna mar bay qaabaddii dhigiye maruunbaa hubkii laga qabsaday loo quturayaae qiiq iyo mar baa laysku dari qaaca uurada eh maruunbuu khasaaruhu u badan qarammadoodii maruunbuu cadaawuhu qurqurin quus wuxuu fala eh ummaddii la qoofalay mar bay qayb libaaxeliye maruunbuu islaamkii qabjabay qoor la soo kiciye geesiga la quursaday mar buu qoorta soo dhiganeh wax ka qaaya weyn iyo mar buu qiimaheed bixin wax ka qaaya weyn iyo mar buu qiimaheed bixine qabri lagama baajiyo ninkuu qaamudkii galaaye qoomkii isqaadqaade ee qoorta kor u taaga qadaadkiyo mar baa lagu dhegaa qoobka raafaha qadaadkiyo mar baa lagu dhegaa qoobka raafaha eh qunyar soco ninkii diiday ee kibir la qooqaaye maruunbuu ilaah soo qabtaa webina quusaaye waa waxa fircoonkii qatalay qarada weynaaye qabqabtii nabruud iyo lawaa qudhubdhabkiisiiye qudhaanjiya kaneecaa ku dilay qoomamiya ciile qasrigiisi subax buu ka tegey quruxda waalla sida uu qaryaan hore yidhee qodob ka maahmaahay kol haddii biyaha loo qabtoo lagu qulaameeyo ma qurqudhiyo neefkii surkiyo qoorta la hayaaye annagana qoryaha reer galbeednama qasbaayaane qumbuladu haddaa soo ridaannama qaldaysaane qardabada ma daysaan wiqiintan iyo qaabiile quud aana jirin baad wallee qori u doontaane qudde iyo fandhaal baad intaa geed ka qoraysaane qase inaad marnaba quudisaan waa qisiyo yaabe qiiriya riyaa doonaysaan inaad ku qaaddaane qudhgo'diya qarbiga roob ka da'ay quusta loo badiye haddii aad qancaysaan horaad ugu qasaarteene qarni bay ku dhowdahay intaad qori ku hayseene qodax baad ku noqoteen khalqiga qoobka kaga taaleh qodax baad ku noqoteen khalqiga qoobka kaga taaleh qaska dunida idinkaa wadiyo qulubka shayddaaneh qiyam xumana idinkaa ku riday qaabka nololeed qiyam xumana idinkaa ku riday qaabka nololeede anna qowlka ee baan qabsaday qirashadiisiiye qur-aankiiyo xadiiskiyo sunnaha waanu qalannaaye qarqarsiga ma yeelliyo dulliga mararka qaarkiiye khuraafaadka gaaladu hayaannama quseeyaane
qawqawda yeedhiya madfacu qalalax weeyaane quwad baan ka qaadnaa hubkiya qaraxa waaweyne adoo lagu qasirayaa xitaa la isqondhoriyaaye qabri inaad gashaabaa ka roo nolosha quustaaye qab inaad ku dhimataa ka wacan qaabka tuugsigaaye waa inaad qudhaadiyo hurtaa qoorta kugu taal qardoofada yuhuudiya dulmiga waa la qaayibaye dhaaxaad qarribayseen arlada naguna qooqdeene wax badan baad qorshaha dawladeed naga qabyayseene qorkaagii dhammaa iyo wakhtigii eebba kuu qoraaye qamaamuur islaamiya rag baa qaajo soo koriye qolqolkiya rag baa kuugu iman qalawadaadii qolyahaad xaqoodii cuntaa qaanta kaa gudane qadar aan badnayn baa ka hadhay qaranjabkaagiiye qosolkaaga wado maalin dhow qooma maaxigii intaas ayuu faysal ku egyahay gabaygu aad iyo aad qosolkaaga wado maalin dhow qooma maaxigiya xaqiiqatan waa gabay sawir dhammaystiran ka bixinaya wixii dhacay diiwaanka suugaanta soomaaliyeed dabaaldahaba ka gali doona xitaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala jiilka aanan hadda joogin ama la socon wadciga wixii qiza ka dhacay waa tix uu ka bogan karo insha allahu tacaala abwaanageyin 7 Oktoobar wixii dhacay kadib maxaa is leedahay saadaashu way ku sii socotaa waa mahadsantahay walaal 7 Oktoobar hadda 2 sano laga jooga labadaas sannadoodna intaynu hadda ognahay dad tiradooda 100,000 ay ku dhowda ayaa ku shahiiday duulaanka ay yuhuuddu ka wadeen marinka Gaza sidoo kale dagaalku marinka Gaza wuu dhaafay runtii wuu faafay dambiishay maaragtay Gaza ka bilaabantay maalintaas badan bay runtii gaadhay waynaga hadda sheegayna ilaa iyo dooxa inay gaadhay in lagu beegsado dadkii joogay oo saldhigga ugu weyne Maraykanku ku leeyahay bariga dhexe iyada oo kaga jawaabaysa duulaankii uu Maraykanku ku qaaday xarumaheeda nuclear markii dambana xubno Xamaas ka tirsanaa inay Israa'iil lafteedu ay ku beegsatay dooxa ay ku beegsatay waxyaabahaasoo ka hor imanaya heshiisyadii dowladaha carbeed ay kula jireen Maraykanka ahaa inuu nabadgelyadooda ilaaliyay inay taxaaluf leeyihiin iyo waxyaabahaasoo dhan ka hor imanaya iyaga laftooda marka waxaa hadda jirta weyn basic military law siina ay ahayd in iyaga la ilaaliyo iyagana inaan laga ilaalinahayn hadda waa runtii waa u caddaatay waayo waxa marka hore iyaga laga ilaalinayay moogtahay waxay ahayd carabahan yare dariskoodu inaanay maaragtay isu taltallaabin laakiin cadowgeyna rasmiga inaan laga ilaalinahayn runtii way u caddaatay marka walaal su-aashaada haddaan usoo laabto waxa weeyaan isbeddel baa horta si guud gobolka ayaa ka muuqda runtiina dad waaweyn labadaas sannadood way dee dagaalku ugu galaaftay oo maaragtay iiraan dad badan baa runtii ayaa kaga maqan hadda duulaanka labada sannadood socday Lubnaan ururkii ka dagaalami jiray runtii wax weyn baa gaadhay dadka reer Gaza iyo maaragtay muqaawamadoodii wax weyn baa gaadhay yuhuudda laftooda wax weyn baa gaadhay kalsoonida dadkoodu ay ku qabaan xataa inay sii jiri karaan waxyaabaha qaarkood cajiibka waxaa ka mid ah dad badan oo degan dhulkan hadda Israa'iil ay u dowladaynayso oo doonaya ama muujinaya ama maaragtay soo bandhigaya inay rabaan inay ka baxaan oo aan lagu kalsoonaan karin nabadgelyada dhulka ay hadda joogaan oo galbeedka u guuraya ama Yurub ku laabanaya marka kalsoonidii ay dadka shacabka ay ku qabeen xitaa inay nidaam dowladeed oo iyagu ay leeyihiin ay Tel Aviv ka dhistaan oo ay ku noolaadaan runtii lafteeda taas dhaawac weyn baa gaadhay marka hadda 2 sannadood kadib waxyaabaha walaal cajiibka waxaa ka mid ah markii uu socday shirki Dooxa qodobadii shirka ka soo baxay Maraykanka loogu baaqaayo in maaragtay arrinta yuhuudda maaragtay faragelinta ay samaynaysa iyo duulaanka Dooxa ku soo qaaday iyo Maraykanku inuu arrintaas wax ka galo ayaa ka mid ahaa qodobada ugu muhiimsan ee dadkii meesha ka hadlay ay sheegayeen xilliga maxaa la yidhaahdaa dowladihii meesha ku shiraya ay Maraykanka u dacwoonayaan wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka wuxuu joogay Tel Aviv markii dambena Qudus buu aaday qoraal buu soo qoray uu leeyahay waxaan joogaa caasimadda abadiga ah yuhuud isagoo Qudus u jeeda marka Maraykanku wuu endorse gareeyay wuxuu rabo wuu sheegay dadka indhaha iska ridaya waxa weeyaan waa maartay waa carabta iyo hogaankooda weey laakiin Maraykanku hal wax isma bedelaan danaha uu Maraykanku yuhuudda ka leeyahay ma isbedelo oo mantiqada ah ma isbedelo saas daraadeed mar kasta oo yuhuudduna joogto Maraykankuna jooga wixii socon jiray un baa soconaya dhacdooyinkuna way soo laalaabanayaan mooyaane mar kasta danaha Maraykanka iyo yuhuudda way isku lamaayeen marka wala horta duulaanku saas uu eegyahay Trump iyo Netanyahu-na saasay ka midaysan yihiin
dadkii xoogaa xasaasiyadda ama saska ka yara qaaday markii layidhi marayka khaza waa laga raraya reer falastiin yidhi maxaa dadka dhulkooda looga raraya xoogaa arrintaas xasaasiyadda ay ku abuurtay ayaa hadda waxaa la qaatay maxaynu dadka u raraya dadka laftooda maan la wareegno ayaa laga yaabaa in wejiga loo dhigay marka hadda saasay u eg tahay laakiin yuhuuddu natiijooyinka u socoto dhame taas maaha natiijada u socota waxaa dagaalku inuu sii socdo ama xamaas ay gacmaha taagaan xamaasna ilaa hadda inay maartay shidka ay qaadi doonaan malaha ma u muuqataan isleeyahay hadda marxaladan aan joogno marka walaal inahaasa ayaa hadda qodobadii Trump marka muhiimaddu waa in ujeedkii duulaankan loo qaaday ee 7 Oktoobar ka dambeeyey in ilaa hadda uusan Netanyahu gacan ku dhigin sidii uu sheegay hadda walaal hilaal baaba sheegay xataa 7 Oktoobar haddaanay dhici lahayn waxaa laga yaabaa Netanyahu inay u qorshaysneed Xamaas uu duulaan ku qaado oo uu Gaza maartay uu galo jawgan saas u ekaa ayuu u eegaa inay kala yar hormareen baa hadda marka laga yaabaa marka 2 sano kadib Netanyahu burbur badan wuu geystay laakiin haddana weli Gaza gacanta kuma hayo Gazana mar kale waxay noqon kartaa meel Xamaas ay duulaana kuwii hore la mid ah ay ka soo abaabulaan dagaalkana hadda waxaan filayaa 2 sano socday waa duulaankii ugu dheeraa ay yuhuudda weligood ay galaan waa dagaal 2 sano oo toosa socday may gelin intii hadda ay jireen marka 2 sano kadib taklifada kaga baxday dhaqaale kaga baxdayna midii ugu xooganeed marka waxaan isleeyahay 2 sano kadib maadaama weli markii Gazana aanay gacanta ku hayn xataa haddii burbur kasta ay geystaan hadday reer Gaza dhulkoodii u harayaan Xamaasna ay maartay godadkeedii u harayso ciidamada Netanyahuna ay Gaza ka baxayaan yuhuudda wuxuu u sheegay Netanyahu ma hayaan waayo isagu tirtirid baa wuxuu u socday ahayd iyo inuu maartay awoodda qabsado marka waxaan isleeyahay weli nabaddu weli waxbaa dhiman weliba marka indhaha yuhuudda lagu soo fiiriyo wixii ay doonayeen marka loo fiiriyo wax badanoo hadda ay xaqiijiyeen runtii ma muuqato reer Falastiinna waxaa u muuqata 2 sannadood oo la duqaynayo oo la burburinayo wax kastoo hub yaalla maartay nuclear kaas wax marka hadda laga tago hub kastoo meesha yaalla waa lagu isticmaal waa lagu dhuftay waa lagu sameeyay gaajaysi kastoo lagu sameyn karo waa lagu sameeyay bilefa kastoo loo sameyn karo waa lagu sameeyay dunida oo qof walba soo gurman lahaana wuxuu ku qustay waa la tusay laakiin 100 kurun baa laga dilay bas 2 sano kadib reer Falastiin 100 kurun baa ka dhintay marka iyaga laftooda waa u jeedaan inaan la dhamayn karahay maartay inaan la dhamayn karin xoog lagu dhamayn karin magaalo 3 milyan ku nool ay ku nooshaa 100 kurun baa ka dhintay bas marka 10 sano hadduu dagaalku sidan ku sii socdo inta ka dhiman kara waa yaqaan marka kulli way dhimanayaan iyaga laftooda inay maartay si gobanimo la u dhintaan oo aanay gacmaha taagin haddii maanta gacmaha taagaan 3 milyan ba way dhimanayaan laakiin haddii istifaacaan 100 kurun kale ayuunbaa dhimanaya laakiin nagayow waxaa jira dad hadda u ololeynaya nimankan inay hubka dhigaan oo culimo leh aqoon-yahan leh oo aad ugu ololeynaya arrintan waxa ugu weyn dadkaas ay dhaliisha ka dhigaanna waxay tahay idinka ayaa bilaabay dagaalkan inaad joojisaan ayuuna ku dhammaan karaa aragtidaas meelo badanna way taallaa oo caalamka islaamka ka mida oo kooxaha halgamaya in la yidhaahdo hubka dhiga iyo in lagu eedeeyo halganka ay ku jiraan iyadoo cadowgii soo duulay laleeyahay adigaa keenay arrintaas intay u socotaa arrintaas intay maxay salka ku haysaa isleedahay horta walaal meesha maanta aan ka hadlayna dagaal ka socda waa Gaza waa meeshan ka hadlayna New York ma kama hadlayno Washington kama hadlayno London kama hadlayno Paris kama hadlayno meesha hadda dagaalku uu ka socda la isku dilaya dadka masaakiinta lagu leeyahay meesha ay ku dhasheen way awow ay lahaayeen dadkan leynayaana waa 2 qolo waa qolo ku soo duushay hadda taariikhda ay ku yimaadeen dhaweyd aan u jeedno iyo qolo danahooda istiraatiijiga ah ka dhex arka inay dadkan duulimaadka ay taageeraan si aanay ummadda muslimiinta ee meeshaas joogta aanay xasilooni iyo deganaansho iyo dawladda ay leeyihiin aanay u helin oo kadibna mustaqbalka wax iyaga lid ku ah aanay uga soo bixin marka aqliyadda ka waran marka qofka leh dadkan adigaa keenay Gaza adigaa keenay oo Washington ka soo kaxeeyay halkan keenay gunnimadu markay abtirsato waxa laga yaabaa tusaale ahaan kale qofkaas isdhiib weey horta wuxuu macnaa dabcan sheegay waxa in qofku isdhiibo oo uu aqbala in laga adkaaday oo uu aqbala inaanu fursad lahayn oo uu aqbala inaanu waxba iska celin karin saas daraadeedna halkan dad baa waxay leeyihiin maxaa la yiraahdaa AMISOM iyo Mareykanka iyo waxa dhan way iska tagi lahaayeen idinka dagaalamay hadda dagaalka iska daysaan oo gacmaha taagtaan oo dadkiina dhinac ka raacdaan gaaladaba idinka keenay halkan Soomaaliya aan joognay maartay ayuu narrative-kaasi ayuu yaala wasaas iyaguna waa la mid weey marka nuxurku macnaha waxa weeye qof raba
waxa la rabaa maaha inaad noolaato noloshu macno male way timaadaa way dhammaataa waxa weeyaan 60 sannadood 70 40 sano aad noolaanaysa sideed u noolaanaysaa waxaad ku noolaanaysaa noloshii hadda mahmahdii nolol adigu aad rabto iyo geeri dabcan dee geeri ma ka fursanaysid markaa nidaamka dowladeed layskuma haysto salaad layskuma haysto iyo soonsoon waxaas maaha qofka falastiiniga ah nidaamka dowladeed uu ku hoos noolaanaya marka yuhuudda mise waa miduu isagu leeyahay ma isaga dooranay mise waa loo dooray waa loo dooray waxay leeyihiin anagu ma rabin yuhuudda ku hoos noolaan haddaanad yuhuudda ku hoos noolaanin waan ku dilayaa buu leeyahay yuhuudi iyaguna waxay leeyihiin maxay ii dilaysaa waa iska kaa dhicinayo marka ninka maaragtay aqoonyahanka ama wadaadka meel jooga wuxuu leeyahay inuu ku dilay inuu ku gumaysto kala dooro yuu ku gumaystaa mise wuu ku dilaa dee inuu dilaan doortuu leeyahay aniga laftee waxaan leeyahay in lay gumaysto iyo in lay dilo waxaan dooranaya maxay in lay dilaa baan dooranaya waayo kolleyba waa dhiman lahaa laakiin fulaygu muxuu intaasoo jeer buu dhintaa buu hadda abwaan ku sheega marka reer falastiin waxay yidhahdeen intiina la gumaysan lahaa waxaan rabnaa inaan waxaa markaa la karinayay in dowladaha kale ee carbeed inay iyaguna jidkaas marka waxaa fidsaneed gogashii looga farxalanayay qadiyadda falastiin iyo guud ahaanba wixii la odhan jiray maaragtay istaagtaaggii bariga dhexe ka jiray oo dhan la doonayay inay dhammaato caasimadda yuhuudda rasmiga ahina dee trump wuu saxeexayba inay noqoto maaragtay inay jerusalem inay qudus noqoto markaa mashruuc la caadiyeeyey oo laga dhigay in carabtii iyo yuhuuddii dhulka deganeed ay heshiiyeen oo la isafgartay oo mushkiladdii dhammaatay gogol noocaasa baa la rabay in la fidiyo arrintii horta 7 Oktoobar dhacday haddii hal wuxuun ay ku guulaysatay waxay ku guulaysatay siyaasaddii la doonayay in meeshaas ay ka hirgasho horta inay hirgeli kari wey kacdoonkiina ay soo noolaysay waxaa laga yaabaa hadda abwaankuna si fiican buu u sharaxay madaxda dowladaha islaamka hor fadhiya dowladnimadu horta waa inay dantaada ka shaqayso dadka muslimiinta hadda waxay ogyihiin dadka xukuma hal dowlad oo dantooda ka shaqaysa ama rabitaankooda ku joogta inaanay jirin ma jirto marka maadaama dantoodana aanay ka shaqaynahayn rabitaankoodana aanay ku joogin dadkii laysku dayayay in la suuxiyo oo ugu yaraan lasii xukumi karaa haddii guuxu bilaabmo inuu dherigu qarxaa wakhti badan ma qaadato waa laga yaabaa wakhti waa iska qaadan laakiin dad badan oo 7 Oktoobar ka hor waxaan moodayay waxay iyagu leeyihiin inuu yahay oo moodayay nidaamkuna iyagu leeyihiin inuu yahay oo moodayay madaxweyne iyaga dareenkooda iyo ka shaqeeya inuu yahay waxay ogaadeen waxa meesha xukuma iyo waxay iyagu doonayaan inaanay isku meel u soconin wakhti unbay markaa qaadan doontaa intay baraarug sameeyaan inay iska dulqaadaan oo waxay iyagu doonayaan ama wax iyaga dantooda ka shaqaynaya inay meesha keensadaan waa qodob kale marka oo duulaankan aad is leedahay banaankuu soo dhigay marka 7 Oktoobar ka hor wixii la filanayay iyo 7 Oktoobar shucuubtii siday u qaabaysa ma aha xataa bariga dhaxo keliya ma xataa galbeedka fiiri jaamacadihii ugu waaweyn moogtid gaalada wuxuun baa iskaga jirun dad xoogaa maaragtay caqliga xoogaa isticmaalayo shucuur ku jiro leen waxan waa qaldan yahay jaamacadihii ugu waaweynaa galbeedka ay ardaydoodii waxay leeyihiin warniyo dadkan maxaa lagu haystaa maxaa loo leeyahay dowladeenu dadkan masaakiinta la leynaayo waxay hubka ugu bixinaysaa waa dadkii 20 sano kadib Usaama bin Laden waraqiisa akhrisanaya ilaa ninkana waa saxsanay maxaa laga rabaa hadda waxay leeyihiin statistics qaarkood iyo dadka 18 jirka ka yar Mareykan jooga iyo dadka maaragtay 60 jirka ee Mareykan jooga statistics ay isku barbar dhigayaan dadka waaweyn 50 jir 60 jir ee Mareykan jooga boqolkiiba 60 hadda statistics waa la hubin karaa ay qadiyada Israa'iil la dhacsan yihiin oo ay u arkaan Israa'iil inay tahay in la taageero oo ay saxsan yihiin dadka laakiin digital age ka dhashay boqolkiiba wax yar ayaaba dadka intooda badanba waxay taageersan yihiin qadiyada Falastiin marka waxa laga yaabaa baraadyada ka dhacay shawaaricda waaweyn ee London iyo Paris iyo Spain oo galbeedka ku taala waxay leeyihiin dadka dhalinyarada ah oo maaragtay dadkan waa gar daran yihiin maxaa la yiraahdaa yuhuud jaamacadoodii baa xiriirka u jaraay jaamacadii waaweynaa ee xiriirka maaragtay xoogaa ay ka dhaxeeyeen ay ardaydii waxay leeyihiin maya oo la soo qabanaya iyagoo ciidamadii Mareykanku xidhaya ardaydii oo ardaydu waa gar daran yihiin waxa taa xorriyadda qowlkii la ilaabay marka walaal waxa laga yaabaa bariga dhexana dadku ma haystaan xorriyada ay ra'yigooda ku muujin karaan laakiin way guuxaysaa waxyaabaha guuxa keenayaan waxa kamid ah waxa Gaza ka dhacay waa u jeedaa shacabka maaragtay bariga dhexdiga Iiraan wixii ka dhacayna waa u jeedaa Suuriya hadda waxa laga wadana waa u jeedaa waxyaabaha sidii beritoole maaragtay Sacuudiyada iyo maxaarata masarta iyo waxa inay gaari doonaan qof walba waa u muuqata marka waa hubaan haddii laga soo faraxasho maxaa la yiraahdaa Gaza
oo la soo maro Iiraan oo wixii ka dhacay Dooxa la arkay Lubnaanna lagu daray xuutiyiinta waxa haystana looge bariya saa dambe waxa la isugu imanaya Maka iyo Madiina iyo Riyaad iyo Ankara iyo Istanbul iyo meelahaas waa ogyihiin marka dadka meeshaas degani in maxaa la yiraahdaa meesha loo socdaa inay ka weyn tahay Gaza ay ka weyn marka baraarug guud oo dadkii waxba yaanay samayn wax ficil yaanay samayn laakiin baraarug guud oo meel cidla baan fadhinaa maxaan yeeli karnaa ayaa laga arki karaa inay waxyaabaha samayn kamid dood hada taagan waa hagaag abwaanigay waa kugu soo noqon doonaa insha allahu tacaala waxaan sii wadi doonaa 7 Oktoobar iyo natiijooyinkii ka dhashay iyo halka caalamka ay ku sii jeeynayso laakiin sidaan barnaamijka aan horey idinkugu sheegnayba waxaa qayb ka noqon doona gabayo ay tiriyeen abwaanada oo ku saabsan wixii dhacay 7 Oktoobar iyo duulaankii xigay ee maamulka Yahuudda waxaa markan soo dhaweynayaa abwaan Jesto abwaan soo dhawow waxa aad ii sheegtay inay jirto tix aad ka tirisay mawduucan nuxurka bal iyo ujeedada muxuu ka hadlayaa Faisal waa mahadsan tahay gabayga waxaa la yidhahdaa qayayaab wuxuu soo baxay 12 Julaay 2025 waa gabay ka warramaya gumaadka isirsifaynta ah ee maamulka Yahuudda uu muddada 2 sano ah uu ka wada magaalada Qase waana gabay hiil iyo garab u ah carruurta reer Qase ee dulmiga iyo xaqdarrada lagu xasuuqayo sidoo kalena go'doominta iyo gaajaysiinta la isugu daray ugu dambaynta gabaygu Faisal wuxuu maaragtay la hadlayaa gumaysaha duulaanka ah wuxuuna u sheegayaa in dadka reer Falastiin ay halgankooda gobonnimo doonka ah ay wadi doonaan isla markaana uusan marna joogsan doonin waa garta inta ay maaragtay xornimo iyo gobonnimo ka helayaan ugu dambayn iyagu ay u hadhayaan dhulkooda iyo ciidooda dhab ahaantiina halganka reer Falastiin waa mid jiilba jiil u sii gudbin doono oo runtii ay iska dhaxli doonaan oo marka uu nin dhintaba nin kale uu dhalan doono waana kii hadraawi maansadii fido ku lahaa Falastiin raggeedii figlad iyo walaamaha foosba foos ma ku hubsaday facfac ma isu dhiibeen filka xiga ma lagu simay cartan faylka ma u baxay fadal muu xidhxidhan yahay faaruuq ma koraya fido uur ma leedahay faaqid ma u calool galay faayo ma u mataan tahay Falastiin ma geed baa halka faash ku laba dhaco laamuu ka foofaan marka Faisalow waa halgan marka jilba jil iska dhaxlayo waa halgan jilba jil maaragtay iska dhaxlayo oo runtii socon doona inta uu duulaanka iyo xaqdarradu maaragtay dadka lagu wado marka gabaygu nuxurkiisu waa intaas inaasu istuu taagaya waa gartay inoo mare maansada qorshaa loo tirshaa laguna qeexaaye qodobiya shuruuc baa ka yaal qaabka loo dhiga haddaan hadalku laba qaar ahayn qoonsi baa jira kolkuu xarafku meel qudha ka galo qaaf kalaa maqane marna qalabka maahmaahwad iyo quruxda weeyaan waa hiba rabbigu qaybiyo qolaya siiyaaye qaadirkiiyo ilaah baa ku qora qaybta feedhahae ninba qoondadiisuu helaa ama ka quustaaye ummadday qareen iyo u tahay qaar caddaalada usha qaranka lagu toosiiyo qalinka weeyaan qabiil laguma caayiyo tolkii qayre wadayaale qofna laguma maagee runtaa lagu qormeeyaaye saboolkiiyo ninkii qaawan baa lagu quweeyaaye qani iyo ninkii xooglabay qawlalkii tahaye qaamuuska weeyaan afkiyo quudka nololeed haddii qowlnin weyn uu ka dhaco qadafna uu sheego waa geed qalfooftii sariya laamihii qubae xil baa qoorta kuu sudhan ninkii qada ku doontowwe qayil iyo hadday qaad gashana qiimaheed dhimay uma qaranto qaadiya hunguri qaab xun loo cuna ha qallixnina geenyada qurxoon qoofalkaa dilay arrin laga qisoodiyo haddaan qodob ku riixaynin suugaanta qanigiyo tixuu qurux ma yeeshaane aniguna murtida qaaligaa qayd ma dhaafsada dad xaqoodii laga qaatay baan ugu qareemaaye bal inuu qalbigu uu degaan ugu qaboojaaye maantana balqora waa qasiya qubanaheedii caydigan gumaystuhu qashee sumuuca loo qaybshay qoyskiyo qaraabadan rugmaday qadafna loo laayey hooyadan qudhii laga jaree qaladka loo toogtay aabbahan qisaas lagu xukumay xadhigna loo qoolay
qaafada duqayd iyo bulshadan gumuca loo qaatay qaryadahan qurxoon iyo hablahan qaraxu googooyey qaarkan hore qalfooftiyo lafahan quruba meel yaallo qoortan go'an feedhahan qombobay hidhibkan qaydhiina dhiiggan quban xinjirahan qulqulay qalabkan yoomaya dhegtan qaadhay seedahan qallalay qoloftan duugowday reerkan qaxay maatadan qalqalay qaxarkan loo geystay qolkan dumay qiyaamahan ku dhacay qararkan soo daatay aqalladan qubuuraha noqdee sinaha qaaqaawan qaxoontigan duruufaha qabee sabanka loo quudhay quudla'aanta ubadkaa qadee qaraxa boobaaye carruurahan qadoodiga gamee qadana loo waayey qaylada baroortiyo ilmahan lagaga qaaqsiiyey qabaxdiyo qabaalladan jajabay qalaxdan yeedhaysa qabaxdiyo qabaalladan jajabay qalaxdan yeedhaysa seeftan qawle qaayahan burburay quruxdan aafowday qaskan dhacay umuurahan qarriban dunidan qiiqaysa dadkan wada qarqoomiya shacbigan qoobka lagu duugay ummaddaa qumbacatiyo bulshadan qarowla taahaysa qambaruurka ciilkiyo qalbigan quus la gubanaaya qamuunyada xanuunkiyo dulmigan lala qandhoonaayo dhaayahan ilmada soo qubee dhabannadii qooyi qayayaabkan weyn iyo dhacdadan quduura noo keentay bal qiyaasta waa wada qisiyo qiiro oohinee inkastoo dagaalkii qasiyo qadafkii beenoobay inkastoo qabkii reer galbeed qorigu uu diiday inkastoo khasaariya dhib iyo qaranjab uu gaadhay inkastuu qablaydiya ku dhacay qalabkii loo aasay inkastuu dhirbaaxada qasaan qaadan kari waayey inkastuu iswada qaawiyoo kibir isqaadqaaday inkastuu isqoolaaliyoo qariyo buur fuulay inkastuu qanjaha neefiyoo qumanka uu buuray inkastuu qardun xoogsadoo himiladii qaadhay inkastuu qaloombiga hubkiya qaraxya noo miisay inkastoo sutida loo qabtoo qorraxsi loo diiday inkastoo dagaal loo qastiyey waranka loo qaatay inkastoo qondhaca loo maroo qodaxda loo jeedhay inkastoo qarfaha loo degoo qabowga loo seexday inkastoo qadhaabkiiyo dhirtiyo midhaha loo quutay inkastoo qasay waaqisee lagu qaniimaystay inkastoo qabbaankii carbeed qarafna kuu diiday inkastuu gacmaha kuu qabtoo cadowga kuu qoolay inkastoo qiyaaniya dhib iyo qaxar laguu geystay inkastoo qadhaadh iyo sun iyo dacar laguu qooshay qurbadiyo maruunbaad ka bixi quustayaab kale qurbadiyo maruunbaad ka bixi quustayaab kaleh qarroggiyo hadhuubkii dulmigu qabada soo dhaafiye qarka iyo wuxuu taagan yahay qawrarkii sare eh gumaysuhu dhulkuu qaybsadee cadowgu uu qaatay qaash iyo mar baa lagu xorayn qaanse iyo leebe qaash iyo mar baa lagu xorayn qaanse iyo leebe quwaduhu maruunbay ku jabi qoorta falastiine qudus iyo maruunbay ka bixi qaaraddoo idileh colqatara mar uunbuu ka iman qaahiriya shaame qiyaadada dagaalkuna mar bay qaabaddii dhigiye maruunbaa hubkii laga qabsaday loo quturayaae qiiq iyo mar baa laysku dari qaaca uurada eh maruunbuu khasaaruhu u badan qaramadoodii maruunbuu cadaawuhu qurqurin quus wuxuu fala eh ummaddii la qoofalay mar bay qayb libaaxeliye maruunbuu islaamkii qabjabay qoor la soo kiciye geesiga la quursaday mar buu qoorta soo dhiganeh wax ka qaaya weyn iyo mar buu qiimaheed bixin wax ka qaaya weyn iyo mar buu qiimaheed bixine qabri lagama baajiyo ninkuu qaamudkii galaae qoomkii isqaadqaade ee qoorta kor u taaga qadaadkiyo mar baa lagu dhegaa qoobka raafaha qadaadkiyo mar baa lagu dhegaa qoobka raafaha eh qunyar soco ninkii diiday ee kibir la qooqaaye maruunbuu ilaah soo qabtaa webina quusaaye waa waxa fircoonkii qatalay qarada weynaaye qabqabtii nabruud iyo lawaa qudhubdhabkiisiiye qudhaanjiya kaneecaa ku dilay qoomamiya ciile qasrigiisi subax buu ka tegey quruxda waalla sida uu qaryaan hore yidhee qodob ka maahmaahay kol haddii biyaha loo qabtoo lagu qulaameeyo ma qurqudhiyo neefkii surkiyo qoorta la hayaae annagana qoryaha reer galbeednama qasbaayaane qumbuladu haddaad soo ridaannama qaldaysaane qardabada ma daysaan wiqiintan iyo qaabiile quud aana jirin baad wellee qori u doontaane qudde iyo fandhaal baad intaa geed ka qoraysaane qase inaad marnaba quudisaan waa qisiyo yaabe qiiriya riyaa doonaysaan inaad ku qaaddaane qudhgo'diya qarbiga roob ka da'ay quusta loo badiye
haddii aad qancaysaan horaad ugu qasaarteene qarni bay ku dhowdahay intaad qori ku hayseene qodax baad ku noqoteen khalqiga qoobka kaga taale qodax baad ku noqoteen khalqiga qoobka kaga taale qaska dunida idinkaa wadiyo qulubka shayddaane qiyam xumana idinkaa ku riday qaabka nololeed qiyam xumana idinkaa ku riday qaabka nololeede anna qowlka ee baan qabsaday qirashadiisii qur-aankiiyo xadiiskiiyo sunnaha waanu qalannaaye qarqarsiga ma yeelliyo dulliga mararka qaarkii khuraafaadka gaaladu hayaannama quseeyaane qawqawda yeedhiya madfacu qalalax weeyaane quwad baan ka qaadnaa hubkiyo qaraxa waaweyne adoo lagu qasirayaa xitaa laysqondhoriyaaye qabri inaad gashaabaa ka roo nolosha quustaaye qab inaad ku dhimataa ka wacan qaabka tuugsigaaye waa inaad qudhaadiyo hurtaa qoorta kugu taal qardoofada yuhuuddiya dulmiga waa la qaayibaye dhaaxaad qarribayseen arlada naguna qooqdeene wax badan baad qorshaha dawladeed naga qabyayseene qorkaagii dhammaa iyo wakhtigii eebba kuu qorae qamaamuur islaamiya rag baa qaajo soo koriye qolqolkiyo rag baa kuugu iman qalawadaadii qolyahaad xaqoodii cuntaa qaanta kaa gudane qadar aan badnayn baa ka hadhay qaranjabkaagiiye qosolkaaga wado maalin dhow qooma maaxigii intaas ayuu faysal ku egyahay gabaygu aad iyo aad qosolkaaga wado maalin dhow qooma maaxigiya xaqiiqatan waa gabay sawir dhammaystiran ka bixinaya wixii dhacay diiwaanka suugaanta soomaaliyeed dabaaldahaba ka gali doona xitaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala jiilka aanan hadda joogin ama la socon wadciga wixii qiso ka dhacay waa tix uu ka bogan karo insha allahu tacaala abwaanageyin 7 Oktoobar wixii dhacay kadib maxaa is leedahay saadaashu way ku sii socotaa waa mahadsantahay walaal 7 Oktoobar hadda 2 sano laga jooga labadaas sannadoodna intaynu hadda ognahay dad tiradooda 100,000 ay ku dhowda ayaa ku shahiiday duulaanka ay yuhuuddu ka wadeen marinka Gaza sidoo kale dagaalku marinka Gaza wuu dhaafay runtii wuu faafay dambiishay maaragtay Gaza ka bilaabantay maalintaas badan bay runtii gaadhay waynaga hadda sheegayna ilaa iyo dooxa inay gaadhay in lagu beegsado dadkii joogay oo saldhigga ugu weyne Maraykanku ku leeyahay bariga dhexe iyada oo kaga jawaabaysa duulaankii uu Maraykanku ku qaaday xarumaheeda nuclear markii dambana xubno Xamaas ka tirsanaa inay Israa'iil lafteedu ay ku beegsatay dooxa ay ku beegsatay waxyaabahaasoo ka hor imanaya heshiisyadii dowladaha carbeed ay kula jireen Maraykanka ahaa inuu nabadgelyadooda ilaaliyay inay taxaaluf leeyihiin iyo waxyaabahaasoo dhan ka hor imanaya iyaga laftooda marka waxaa hadda jirta ugu beeska military loo siinay ahayd in iyaga la ilaaliyo iyagina inaan laga ilaalinahayn hadda waa runtii waa u caddaatay waayo waxa marka horeba iyaga laga ilaalinayay moogtahay waxay ahayd carabahan yare dariskoodu inaanay maaragtay isu taltallaabin laakiin cadowgeyna rasmiga inaan laga ilaalinahayn runtii way u caddaatay marka walaal su-aashaada haddaan usoo laabto waxa weeyaan isbeddel baa horta si guud gobolka ayaa ka muuqda runtiina dad waaweyn labadaas sannadood way dee dagaalku ugu galaaftay oo maaragtay iiraan dad badan baa runtii ayaa kaga maqan hadda duulaanka labada sannadood socday Lubnaan ururkii ka dagaalami jiray runtii wax weyn baa gaadhay dadka reer Gaza iyo maaragtay muqaawamadoodii wax weyn baa gaadhay yuhuudda laftooda wax weyn baa gaadhay kalsoonida dadkoodu ay ku qabaan xataa inay sii jiri karaan waxyaabaha qaarkood cajiibka waxaa ka mid ah dad badan oo degan dhulkan hadda Israa'iil ay u dowladaynayso oo doonaya ama muujinaya ama maaragtay soo bandhigaya inay rabaan inay ka baxaan oo aan lagu kalsoonaan karin nabadgelyada dhulka ay hadda joogaan oo galbeedka u guuraya ama Yurub ku laabanaya marka kalsoonidii ay dadka shacabka ay ku qabeen xitaa inay nidaam dowladeed oo iyagu ay leeyihiin ay Tel Aviv ka dhistaan oo ay ku noolaadaan runtii iyada lafteeda taas dhaawac weyn baa gaadhay marka hadda 2 sannadood kadib waxyaabaha walaal cajiibka waxaa ka mid ah markii uu socday shirki Dooxa qodobadii shirka ka soo baxay Maraykanka loogu baaqaayo in maaragtay arrinta yuhuudda maaragtay faragelinta ay samaynaysa iyo duulaanka Dooxa ku soo qaaday iyo Maraykanku inuu arrintaas wax ka galo ayaa ka mid ahaa qodobada ugu muhiimsan ee dadkii meesha ka hadlay ay sheegayeen xilligaa maxaa la yidhahdaa dowladihii meesha ku shiraya ay Maraykanka u dacwoonayaan wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka wuxuu joogay Tel Aviv markii dambena Qudus buu aaday qoraal buu soo qoray uu leeyahay waxaan joogaa caasimadda abadiga ah
yuhuudda isagoo qudus u jeeda marka maraykanku wuu endorse gareeyey wuxuu rabo wuu sheegay dadka indhaha iska ridaya waxa weeyaan waa maaragtay waa carabta iyo hogaankooda wey laakiin maraykanku hal wax isma bedelaan danaha uu maraykanku yuhuudda ka leeyahay ma isbedelo oo mantiqada ah ma isbedela saas daraaddeed mar kasta oo yuhuudduna joogto maraykankuna jooga wixii socon jiray unbaa soconaya dhacdooyinkuna way soo laalaabanayaan mooyaane mar kasta danaha maraykanka iyo yuhuudda way isku lamaayeen marka walaa horta duulaanku saas wuu eegyahay Trump iyo Netanyahuna saasay ka midaysan yihiin dadkii xoogaa xasaasiyadda ama saska ka yara qaaday markii leeyay maraykanka Gaza waa laga rarayaa reer Falastiin ee maxaa dadka dhulkooda looga rarayaa ee xoogaa arintaas xasaasiyadda ay ku abuurtay ayaa hadda waxa la qaatay maxaynu dadka u rarayaa dadka laftooda maan la wareegno ayaa laga yaabaa in wajiga loo dhigay marka hadda saasay u eg tahay laakiin yuhuud natiijooyinka u socoto dhame taas maaha natiijada u socota waxaa dagaalku inuu sii socdo ama xamaas ay gacmaha taagaan xamaasna ilaa hadda inay maartay shidka ay qaadi doonaan malaha ma u muuqataan isleeyahay hadda marxaladan aan joogno marka walaal inahaasa ayaa hadda qodobadii Trump marka muhiimaddu waa in ujeedkii duulaankan loo qaaday ee 7 Oktoobar ka dambeeyey in ilaa hadda uusan Netanyahu gacan ku dhigin sidii uu sheegay hadda walaal hilaal baaba sheegay xataa 7 Oktoobar haddaanay dhici lahayn waxaa laga yaabaa Netanyahu inay u qorshaysnayd Xamaas uu duulaan ku qaado oo uu Gaza maartay uu galo jawgana saas u ekaa ayuu u eegaa inay kala yar hormareen baa hadda marka laga yaabaa marka 2 sano kadib Netanyahu burbur badan wuu geystay laakiin haddana weli Gaza gacanta kuma hayo Gazana mar kale waxay noqon kartaa meel Xamaas ay duulaana kuwii hore la mid ah ay ka soo abaabulaan dagaalkana hadda waxaan filayaa 2 sano socday waa duulaankii ugu dheeraa ay yuhuudda weligood ay galaan dagaal 2 sano oo toos socday may gelin intii hadda ay jireen marka 2 sano kadib taklifada kaga baxdayna mid ugu xooganeed marka waxa say 2 sano kadib maadaama weli markii Gazana aanay gacanta ku hayn xataa haddii burbur kasta ay geystaan haddii reer Gaza dhulkoodii u harayaan Xamaasna ay maartay godadkeedii u harayso ciidamada Netanyahuna ay Gaza ka baxayaan yuhuudda wuxuu u sheegay Netanyahu ma hayaan isla waayo isagu tirtirid baa wuxuu u socday ahayd inuu maartay awood qabsado marka waxa isleeyahay weli nabad weli waxba dhiman weliba marka indhaha yuhuudda lagu soo fiiriyo wixii ay doonayeen marka loo fiiriyo wax badanoo hadda ay xaqiijiyeen runtii ma muuqato reer Falastiinna waxa u muuqata 2 sannadood oo la duqeynayo oo la burburinayo wax kastoo hub yaala maartay nuclear kays wax marka hadda laga tago hub kastoo meesha yaala waa lagu isticmaal waa lagu dhuftay waa lagu sameeyay gaajaysi kastoo lagu sameyn karo waa lagu sameeyay bilafa kastoo loo sameyn karo waa lagu sameeyay dunida oo qof walba soo gurman lahaana wuxuu ku qostay waa la tusay laakiin 100 kurun baa laga dilay bas 2 sano kadib reer Falastiin 100 kurun baa ka dhintay marka iyaga laftooda waa u jeedaan inaan la dhamayn karahay maaragtay inaan la dhamayn karin xoog lagu dhamayn karin magaalo 3 milyan ay ku nooshaa 100 kurun baa ka dhintay bas marka 10 sano hadduu dagaalku sidan ku sii socdo inta ka dhiman kara waa yaqaan marka kulliba way dhimanayaan iyaga laftooda inay maaragtay si gobonimo la u dhintaan oo aanay gacmaha taagin haddii maanta gacmaha taagaa 3 milyan ba way dhimanayaan laakiin hadday istifaacaan 100 kurun kale ayuunbaa dhimanaya laakiin nagayow waxaa jira dad hadda u ololeynaya nimankan inay hubka dhigaan oo culimo leh aqoon-yahan leh oo aad ugu ololeynaya arrintan waxa ugu weyn dadkaas ay dhaliisha ka dhigaana waxay tahay idinka ayaa bilaabay dagaalkan inaad joojisaan ayuuna ku dhammaan karaa aragtidaas meelo badanna way taallaa oo caalamka islaamka ka mid a oo kooxaha halgamaya in la yidhaahdo hubka dhiga iyo in lagu eedeeyo halganka ay ku jiraan iyadoo cadowgii soo duulay laleeyahay adigaa keenay arrintaas intay u socotaa arrintaas intay maxay salka ku haysaa isleedahay horta walaal meesha maanta aan ka hadlayna dagaal ka socda waa Gaza waa meeshaan ka hadlayna New York ma kama hadlayno Washington kama hadlayno London kama hadlayno Paris kama hadlayno meesha hadda dagaalku uu ka socda la isku dilaya ee dadka masaakiinta lagu leynaya meesha ay ku dhasheen wey ee awow ay lahaayeen dadkan leynayaana waa 2 qolo waa qolo ku soo duushay hadda taariikhda ay ku yimaadeen dhaweyd aan u jeedno iyo qolo danahooda istiraatiijiga ah ka dhex arka inay dadkan duulimaadka ay taageeraan si aanay ummadda muslimiinta ee meeshaas joogta aanay xasilooni iyo deganaansho iyo dawladda ay leeyihiin aanay u helin oo kadibna mustaqbalka wax iyaga lid ku ah aanay uga soo bixin
marka aqliyadda ka waran marka qofka leh dadkan adigaa keenay Gaza adigaa keenay oo Washington ka soo kaxeeyay halkan keenay gunnimadu markay abtirsato waxa laga yaabaa tusaale ahaan oo kale qofkaas isdhiib weey horta wuxuu macnaa dabcan sheegay waxa in qofku isdhiibo oo uu aqbala in laga adkaaday oo uu aqbala inaanu fursad lahayn oo uu aqbala inaanu waxba iska celin karin saas daraadeedna dee halkan ba dad baa waxay leeyihiin maxaa la yidhaahdaa amisom iyo maraykanka iyo waxa dhan way iska tegi lahaayeen idinkaa dagaalamaya haddaad dagaalka iska daysaan oo gacmaha taagtaan oo dadkiina dhinac ka raacdaan gaaladaba idinkaa keenay dee halkan Soomaaliya aan joognay maartay ayuu narrative-kaasi ayuu yaalaa iyaguna waa la mid weeye marka nuxurku macnaha waxa weeye qof raba waxa la rabaa maaha inaad noolaato maaha noloshu macno male way timaadaa way dhammaataa waxa weeyaan 60 sannadood 70 40 sano aad noolaanaysa sideed u noolaanaysaa waxaad ku noolaanaysaa noloshii hadda mahmahadii walaal nolol adigu aad rabto iyo geeri dabcan dee geeri ma ka fursanaysid markaa nidaamka dowladeed layskuma haysto salaad layskuma haysto iyo soonsoni waxaas maaha qofka falastiiniga ahi nidaamka dowladeede uu ku hoos noolaanaya maka yuhuudda mise waa miduu isagu leeyahay ma isagaa dooranaya mise waa loo dooray waa loo dooray waxay leeyihin anagu ma rabno inaan yuhuudda ku hoos noolaan haddaanad yuhuudda ku hoos noolaanin waan ku dilayaa buu leeyahay yuhuudigu iyaguna waxay leeyihin maxaa ii dilaysaa waa iska kaa dhicinayo marka ninka maaragtay aqoonyahanka ama wadaadka meel jooga wuxuu leeyahay inuu ku dilay inuu ku gumaysto kala dooro yuu ku gumaystaa mise wuu ku dilaa dee inuu dilaan doorto uu leeyahay aniga laftii waxaan leeyahay in lay gumaysto iyo in lay dilo waxaan dooranaya maxay in lay dilaa baan dooranaya waayo kolleyba waa dhiman lahaa laakiin fulaygu muxuu intaasoo jeer buu dhintaa buu hadda abwaan ku sheega marka reer falastiin waxay yidhahdeen intiina la gumaysan lahaa waxaan rabnaa inaan dhimanno kolleybana waa dhiman lahaay marka ninkaasi kolley geeriduu kala warwareegaya laakiin geerida fiiri dadka ilaahay cid ugu naxariis badan ma jirto ilaahay baa dadka wuxuu leeyahay maaragtay naftiina iga iibsada markuu leeyahay naftiina iga iibsada macnaheedu waa maxay dhinta waa dagaalama soo in la dhinta ma marka geeridii mooti ma ilaahay quraanku Allah ku sii tafsiiray wuxuu yiri fayaqtuluna wa yuqtaluna waxay dilaan iyagana wada dilay marka ilaahay tiisan qaadanayna bay leeyahay Falastiin inaguna dabcan taasaan leenahay marka ninkaas walaal waxaan isleeyahay inaan gacmaha taagno rabaa iyagiyo inaguba laakiin reer Falastiin way ka diideen mararka qaarkood yuhuuddu waxay soo baahayeen maaragtay garabkooda sirdoonka Mossad marka waqti la joogaba mararka qaarkood warbixinay sii daayaan dhacdooyinkii ay sameeyeen ugu dambeeyay wax kamid ay marka waqti la joogaba institute-koodaas uu soo daayay waxyaabaha ay sheegaan hadda dhacdooyinkan oo kala Faysal oo kamid waxyaabaha sheega waxa kamid markay rabaan tusaale ahaan oo kale inay ra'yul caamka dawladahan Carbeed ay wax ka bedelaan waxay isticmaalaan dad u eg dad u eg dadka Carbeed waliba marka qaarkood iska dhigaynay dad advocacy sameeynayo dadka danahooda u doodaya mashruucan u ololeynaya ay yihiin laakiin iyaga oo ah maxaa la afayeeno mashaariicda tusaalahan oo kale sonkorta maartay qaaliyoobaysa dad bay ku dhex darsanayaan u ololeeya nidaam meesha ka jira bay iyagu la dagaalansan yihiin laakiin dad advocacy sameeynayo iska dhigaynay dadka la dareen yihiin ay sameynayaan marka wax qariiba maaha inay meelaha ugu badan ee sirdoonka yuhuudda uu ka howlgala marka hadda aan sheegnay marka Netanyahu uu taangi kaga saari waayay Gaza ayaa wuxuu soo sameysanayaa dad kale si ra'yul caamka dadka wax ka bedelo oo u muujiyo dadka inay yihiin dad mushkilad iyaga kula dhex jira u muujiyo inay yihiin darana keenay dad noocaasa laakiin dadkaas marka ugu dambaysa waxa laga yaabaa inay qaar badan oo kamid dad iska masaakiin waa laga yaabaa inay ku jiraan oo aan meesha dunida maanta u socoto ogay laakiin shaki igagama jiro dad badan oo taangiga Israa'iil la socda inuu maxaa la yiraahdaa afayeenno wahina inayuna mashruuca iibinaya waanay jiraan banaankana way joogaan gudaha inay joogaan aad iyo aad bay suurtagalta waa gartay aad baad u mahadsan tahay oo kugu soo noqon doonaa qaybihii dambana waan soo gaarnay markan waxaan siinaynaa abwaan hilaal abwaan waxaad ii sheegtay adigana inaad gabay ka tirisay wixii Gaza ka socday 2 sano ee lasoo dhaafay ujeedada iyo nuxurka bal marka hore inoo dulmar run ahaantii horta si guud waxa weeyaan ujeedadiisu bal in waanu cudurdaaranna walaalihina wax ka badan bay nagu lahaayeen wax yaroo ka mida waqtigeena iyo bal afkeena inaynu isku dayno inaynu ku garab siino walaalaha mashaqada iyo dhibta faraha badan cadowga ka imanaysa dabaalanaya si guud markaa maansaan tiriye la yidhaahdo astaanta adkaysiga waan uga jeeda markaa dadkaasi inay dad ku sifoobay guud ahaan adkaysi marka maanta tusaale loo doonayo haddii loo baahdo dad ku sifaysan inay yihiin oo de waa dadka maanta cadowga inta yare Israa'iil unbaa lagu sheegaanba yuhuudda unbaa ka muuqatee waa dadka kii walaalka u ahaayee u xigayna uu dhinaciisii ka xidhay ee afarta dhanba laga ooday Maraykan min ilaa reer Yurub ilaa Jarmala ay hubka keeneen dhammaantooda Israa'iil waxay ku garaacaysa ku dilayso ay u keenayaan waa dadka
cir iyo dhulba laga go'doomiyey intoo laga qabsaday dhulka dushiisii hoostiisa u guurey kasoo dagaalamaya waxaynu arki jirun dad inagu imika dhulka dushiisa ka dagaalamayna iyagu way ka guureen dhulka dushiisa markii bad la qabsaday cir la qabsaday dhulka dushiisii la qabsaday hoostiisay u guureen markaa dhulka hoostiisa ay kasoo dagaalamaya weli hadda adduunyada wax badan baa laga sii fahmayaabo garanaysaa marba marka laga barto wax weyn baa laga baranaya soo wajahdo duruuf kasta kusoo wajahda ghaza darsi u tahay inaanay markaa ahayn adduunyaduba intan xataa aan joognayn hoostiisa laga soo dagaalami karo marka inaan qofka isdhiib inuusan cudurdaar u helin mar kasta uu fursad haysto markaa dadkaasi waa la gaajaysiiyey waxaad arkaysaa dad waayeel leh oo dad yarar leh oo dhalinyar leh oo la fanoqday haddana alxamdulilah leh waxyaabahan ka yaabay bay ka mid tahay qofkii noocaas ahaa ee gaajaysnaa ee saa awood itaalkiisa u liitay oo haddana gantaal ku dhacay baad arkaysaayoo kii uu qaaday dhakhtarkii geeyey oo irbad iyo loo waayey wax lagu dhiig joojiyo haddana alxamdulilah allahu akbar leh kii uu saa u qaaday irbad iyo waayo haddana dhintay baad arkaysaayoo uu haddana leeyey alxamdulilah ma garanaysaa jibta la rajul xasba diini iimaankooda ma garanaysaa xogan waxaad arkaysaa qof meel uu joogay gantaal ku dhacay oo ilmihiisii sitoo laa ilaaha illallah iska leh oo laga yaaba intii kale ka horreysay inaanu haynba gebigoogii kuwii kalena de waxa weeyaan dhammaan muuqaallo argagaxleh oo aad dareemaysa markaa adduunyada maanta aynu joogno inaan xoog iyo shawka la haysta mooyaane ay been tahay waxaan laysku sheegaya xuquuqul insaan iyo human rights wax laga sheekeeyey iyo wax ma garanaysaa adduunyada maanta inaanay ka jirin xeerarkii reer galbeedku degsadeen oo dhan waxa weeyaan waxba iyagaa ku tuntay sheegin in adduunyadan maanta waxa kaliya ay tahay ka soconaya itaalka doonta lahawo grifta in baa laga sheegaya raganimo canaad baa igaga haray in itaalkaagu meel ku dhigaba aad ku dhimato oo loolanka iyo halgan waxaad aaminsan tahay waxaa u bixisa astaanta adkaysiga markaa markaan dadkaa eegay culayska saaran intuu leegyahay dadaan docino u cayiman oo dhan walba cadowgu kaga yimid uu dheeriyay weliba kaana kan imiga aad sii sheegaysay dadkan maanta ummadda dadka waxaasi ku dhaceen ninkii albaabka ka xidhay baa maanta leh haddaydaan jiri lahayn iyo haddaydaan dagaalami lahayn hubka dhiga idinku ninkii isagoo cadowga kala qayb qaatay ee dagaalka kala qayb galay qof aan kala qayb qaadan dagaalka Israa'iil weeriyay maanta dadka mujrimiinta islaamka sheeganaya midka ugu yar waa midka dhahay hubka dhiga waka inta way maanta inuu ka aamusay wax kale daanu tirahayn inuu iska aamusay haddii aanu gurmanaynin wuxuu tirahayn waa shirqoolada lagu sameeyay moogtahay dhabarshaminta marka haddii hub laga dhigay in Israa'iil wayna soo geeyno Israa'iil marka hore amba Yahuudu aan raahday Israa'iil shaaba ku qaladayna raahday marka horeba dagaalka waxa uu ka soo bilowday lama joogo Filistiin say u yimaadeen maalinba magaalay sii qabsanayaan maalinba imika dadka guryo hor loo ay qabsanayaan la wareegayaan ka hadalkayaan badina guud ahaan astaanta adkaysiga leeyahay bulshadaana waa la fahmi karaa adkaysigeeda iyo duruufta ku jirtay xaaladda ku jirto marka astaanta adkaysigu waxay leedahay hadba ehlu tawxiid ooyayiyo dad islaam ah oo shahaadadiyo iimaanka lagu adyadaynayo awoodiye markay waayeen itaal umuraha ku dhacay la ilmaynayo eedaadiyeen goortaan arkaan alifaadda gabay maansada unkaa axwaashii qasiye ereygan ka idhi maantana akhyaari balleeg waa amaaraddii iska caabinto waa casrigan astaanta adkaysigo waa ilay subaxa ololaha xaqe abaanduulihii inqimaasigiyo waa ubaxa suran istishaadigeed waa aqoonsigii ifafaalaho dad addoonsidiid ku ishaaraniyo isticmaarka waa eebada dishee arxanlaawayaasha ka go'ay alliyo waa dhadhaab aftiray ablaydii sharko arligoo madow gudcur oo darrogay waa arooryadii ku iftiimaysay dalka oo abaar la abaaday iyo dhulka oo arraday abnac iyo kaliil waa roob unkoday arooryada hore ubaxyo dhirtoon caleen lagu ogayn abqadiyo tiyoo hareerigu engegay waa ay rabsheedda ka ogsadee waddadaan ayidin imaanlaawaho waddadaan urquun eegaynino waddadaan adduun lagu iibsanno waddadaan adeecin addoonsige imisaatan jeer haddii la isbeddelo ismigiyo hadday qurxistaan afkaba ajnebigu hadday iska oohiyaan waddadaan ilaaqis ku dhiibino wixii aan anficin ka ajoonayey asalkiiyo sidii ambaqaadistii waa dhaqan ambiyo ololaha xaquye axaadiista iyo asarrada la sugay waxaa laga akhriyayaa aayadee asxaabihii baa laga arkay haddii ololdabiyo lagu qiijo oog afcas iyo rasaas haddii lagu ajalo abasiya hadduu cirku dhiigankoodo awoodigu haddaanay beriye u arxamin hadday uusxabaalaan ibtilaqabuhu waa umuurta duul u adkaysiloo axadun axad waa dadka odhanaya aaladaha casriga la adeegsadiyo artifeefka culus haddii lagu arjumo armaatiya haddii lala dhaca iskaad atomig bam hadday ku ataagayaan armiga haddaan loo aabadayin allaahu akbar waa dadka odhanaya adduunyadu dhammaan haddayanu arxamin oo matiya haddii laga jara anfaco iskaraabka iyo sidii qori engegey itaalxuma hadday la alaalaxaan
iqliiliya hadday biyo eber noqdaan dadku oon hadday u idlaanayaan khayr insha allah waa dad oranaya orabiya wixii u aqdaami jiray aabiga kufriga anaaniyada wada abeesooyinka awlaad cunkaa wargomuu hadday ku adaadumaan abrihiya sidii askartii fircoon axmaqnimo haddaan irbad loola hadhin wa aamantu billaah dadka odhanaya hubka aamuskiiyo wax ku dila urtiyo sida aafadii midka awda gura intoodaba hadday ka adeejiyaan amsaxa hadday aqalladu noqdaan sida aalihii iyo uudkii haddii unuunkiyo bulshada addimada la jaro isbiru weeyaan dadka odhanaya laba aabudhiyo hadday oo gashaan albaabada haddii ilnimada la xidho oogada dhulkiiyo arligaba dhammaan haddii idil ahaan laga soo afjaro acdaa iyo haddii iimaan laawayaal afarteeda goos soo ila xidhaan alxamdulillah waa dadka odhanaya ubadkiyo haddii ooryaha la jaro umushiyo haddii uu rayda iyo odayo islaan midna loo arxamin haddii iilka kuman ubaxcad la dhigo inamiyo habliyo hadduu aaran go'o abshiru weeyaan dadka odhanaya abriskiyo yuhuudigu waa uskage waa agagas iyo bahal aadune akbar xaasid weeyaan aadmige arxan iyo malaha uur damaqsadee waa duulin karee ilaahay khalqee aqoontiya hadday umarada dilaan ahminkiyo haddii indheer garad ku tago waa innaa lilaah dadka odhanaya isbitaaladiiyo adeeg caafimaad haddii la arbushay oo dow rogaan ambalaaska iyo daa emerjensiye irbadiiyo haddaan isbiriin lahayn asdawdiculaah waa dadka odhanaya markaan eegayeen aashay rogrogay amuuruhu siday ugu adag yihiin intixaankanuu marshay ee baheen waa dhal awliyaad baan odhan laha waxaa ismalaa nimanku awliyo intixaanku siduu ugu adag yahay markaan eegayeen aashay rogrogay amuuruhu siday ugu adag yihiin intixaankanuu marshay ee baheen waa dhal awliyaad baan odhan laha sidii nebi ibraahim waa ummo samirkii ayuub waa lagu arko iimaankii bilaal baa ka ifayo asxaabulkhduud saban aakhiriyo alayaasir baan ku ashbihi laha ree alayaasir iyo asxaabulkhduud qoomkii dabka loo shitay markaad maanta iyaga eegto waxaad sunaysaa malaha wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minu billahi alcasiis xamiid baa lagu dilaya waa wax aad iskugu eeg aad iyo aad markaan eegayeen aashay rogrogay amuuruhu siday ugu adag yihiin itixaamkanuu marshay ee baheen waa dhal awliyaad baan odhan lahaa sidii nebi ibraahim waa ummo samirkii ayuub baa lagu arko iimaankii bilaal baa ka ifayo asxaabulkhduud saban aakhiriyo alayaasir baan ku ashbihi laha ambaqaad jihaad markii loo iladay awaaraha markii beder lays eryaday uxud iyo markay umuuruhu dhaceen axsaab iyo markay mu'ta oogsadeen eebiya markii la istiray abley ayaantay xamsiya imisaatan kale istishaadka ay u imaadayeen ilaahay markuu itixaamka riday udgoonuhu markuu yaa aala beder salawatullahi wasalaamu caleyh isoo aadaya oo howlahaa qasa umalka yaallaa wuu egye sidii reer andaluskii umalka helay lagu eegayeen cidna u arxamin masjidkii aqsee u bucdeennu tiil iminkana qasaa laga aamusay andalus baa la qabsaday waa laga aamusay halkii baa laga dhaqaaqi waa inaga herar baa laynaga qabsay miska jaamiceenii weynaa geeska afrika kusan lagu hogaaminaya waa kiniisad la maanta hadalbay uma yaala dad qofka muslimka soomaaliga garanaysa marka tanaasul waxaa iska xigay tanaasul kaa imiga lagu wada leeyahay hubka dhiga unbaa inagu socday 200 sano malaha marka wabay ka baantay marka andalus 8 marka tanaasul yar oo midka weyn u sii socda midba mid imiga maxaa hadhayba kabcad un baabayna xataa kabcadaas nebiga gantaal ku dhuftay iyaa ka qabanaya imiga aragti xitaa waxaa jirta la leeyahay maka iyo madiina qudheeda yahuuda sheeganaysa dee waabay doonayaan waxay yidhahdeen bas wal nebi maxamed baa laga soo reebay sallallahu alayhi wasallam ma garanaysaa awal magdhowgii bay dooni jireen dadkii reer binu qaynuqaac iyo reer binu nadiir ma garanaysaa marka inay waa sheegasho marka waxa weeyaan sidii reer andaluskii umalka helay lagu eegayeen cidna u arxamin masjidkii aqsee u bucdeennu tiil iminkana qasaa laga aamusee waxaa helay igoorkaa alamsadee igoorku waa dad iyaguna muslimiin oo jeel ugu jira qolo kaloo barigaas ma garanaysa waxaa helay igoorkaa alamsadee sidii adaridii axmaalku qabsaday maantana in baa laga soo ordee allahayow quwee oo sii awood rabbiyow irdhada ka ilaaliyo dul ahaan islaam ahay sii koro ololaha jihaadkan islaamku wado adduunyada dhammaan ku iftiimiyo iimaanka iyo xaqan ugu adke aamiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu jazaaka allahu khayran iimaanka iyo xaqa allow nagu adkay qaybihii dambe iyo gebagabadii ayaan soo gaarnay abwaanigeye ugu dambayntii ghaza 2 sano dadka lagu dilay sidaad sheegtay 100,000 ayay ku sii dhow yihiin magaaladiina waa ay burburtay haddana dadkii geystay xasuuqaas intaa la eg waxaad maqaalkaaga cinwaan uga dhigtay in bilowga dhammaadkooda uu yahay arrintaas bal isqabadsii waa sax walaal waa 2 sannadoodba hadda laga jooga dee dadka aad tiradooda la sheegay oo laga yaaba inay runtii ka badan yihiin iyaguna way shahiideen boqolaal kalena runtii way dhaawacmeen oo aan dawe haysan kumanaan kalena waxaa la odhan karaa waxaa lagu dilay gaajaa lagu dilay ayaa la odhan karaa
haddana xaaladdu waxay maraysaa intii hadha in la leeyahay inaa furayaasha soo wareejisaan ayaa maxaa la yidhaahdaa ayay ku jirtaa taladiinu ayay ku jirtaa laakiin haddana markaad dhinaca kale ka soo fiiriso duulaankan horta dhowr wax baa la odhan karaa wuu fashiliyey horta kow waxa koobaad uu fashiliyey haddana maansada abwaanku uu ka hadlayay ay tilmaamaysa wuxuu fashiliyey wixii la odhan jiray dowladaha islaamka ama wixii la odhan jiray dowladaha carbeed ama madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha iyo burjuwaasiyiinta u muuqday inay dadka iyagu matalaan horta way fashilmeen xataa midkoodii ugu dambeeyey Erdogan oo magac loo yeelay dee Trump buu kula kulmay aqalka cad waxaa laga yaabaa hadda qorshayaashan waxaa la leeyahay dadkii soo draft gareeyay maartay soo aqbal ayuu ku jiraa marka kow horta dadkii ay dadku u arkayeen inay wax matalaan ama ay macno leeyihiin horta si fool xun ay dadka hortooda runtii ay ugu ceeboobeen saas daraadeed taas horta waxay muujinaysaa kow hadda dadka muslimiinta intooda badan maanta waxaa u muuqda meesha ay fadhiyaan iyo sidaa u eegtahay oo laga yaaba 2 sano ka hor inaanay u muuqanin dhinaca kale yuhuudda oo tiraahaan aad u yar 15 milyan dunida oo dhan la leeyahay maartay yuhuudda degan baa ku nool hadda waa xoog badan yihiin hubbay haystaan dhaqaalay haystaan waxbay burburinayaan laakiin dhinaca kale gaal iyo muslim isku dar qof maanta adduunka guudkiisa joogo oo dadka yuhuudda ah sympathy ama naxariis u haya runtii waa yaryahay mararka qaarkood maaha intooda badan dadka yuhuudda baasaboorkooda xataa kuma safri karaan baa la leeyahay intooda ugu badan baasaboorro kaleo yurubiyaan iyo wax wada qarsoon bay haystaan isagoo ay ka cararayaan ama ay diidan yihiin in loo aqoonsado inuu yahay qof yuhuudiya oo kadibna uu bartilmaameed u noqdo dadka cadhaysan ficiladooda bariga dhexe ka socda marka waxaa soo ururaysa mistaaqiyadii iyo kalsoonidii lagu qabay in maaragtay dowlad yuhuuda oo xoog badan oo iyagu ay leeyihiin oo haddana ay ku kalsoon yihiin oo dowladdooda ay ku faanayaan inay u dhalato dunida oo dhan maanta dadkii dhallinyarada ahaa dadkii jaamacaadka joogay waxaana de digital media la yidhaha warbaahintu waxa ay gaadhsiisay axmaqnimada iyo xasuuqa ay yuhuudda wado iyo waxa iyo gardaradooda iyo fadeexadooda xishood la-aantooda ayaa runtii dunida oo dhan ayaa u muuqata meel markaa dadka yuhuudda hadda dunida naxariis looga hayo madaxda iyo madaxweyne waxaas waa iska wax kala wey nidaamyada caadiga ahay moogtay nidaamka dawliga si kale isagu u shaqeeya laakiin dadkan shacabka ay hadda maanta dunida guudkeeda ku noole meel qofka yuhuudiga la leeyahay adigaa saxsan ma jirto damqashiir xitaa ma jirto hadda shirkii ugu dambeeyey 80 guurada lagu xusaayay UN-ka markuu Benjamin Netanyahu soo istaagay mikrofoonka waa iskaga wada dareen ergadii meesha fadhi wax yar baa ku haray Maraykan iyo wax yar baa ayaa ku soo haray kuwa ka dareeraya waxa weeyaan kuwii laga yaabay inay 2 sano ka hor ay arkayeen dad saxsan oo xaqula inay noolaadaan oo u doodayo taakulaynayo la heshiiska weeye marka horta walaal filashadii ay dunidu ka qabtay nidaam yuhuudiyeed oo meesha ka dhintay dadkii caadiga ahaa shacabkaana niyadooda runtii way ka go'o xitaa ru'yada ay leeyihiin meesha u socdaan waa la ogaadaa inay dad isarsifayn iyo maaragtay argoosi wuxuuda yihiin taasuna runtii way muujisay way muuqatay macnaha foolxumadooda iyo maaragtay inaanay dunida hadda maanta say uga nooleeyeen waxaa kaloo laga yaabaa waxyaabaha soo dedejin kara inay maaragtay ay noqdaan inay maxaa la yidhahdaa inuu bilowgii dhammaadkooda u noqdo marka la leeyahay macnaha bilowgooda dhan inay berriya saa damba dhammaanayaan maaha laakiin waxaa laga yaabaa inay gaadheen structuralism hadda theoriyadii waxa ku jira waxa la yidhaahdo structuralism waxa weeyaan meesha ugu sarraysa uu wax gaadhi karo marka burburintooda iyo kibirkooda waxaa laga yaabaa meeshii ugu sarraysay hadda la arki karaayo ayay hadda gaadh waxa bilaabmi kara hadda foorarka un weeye waxa weeyaanun ummaddii ilaahay oo dhan hadday gaal iyo islaam yihiin hadda fadeexadooda waa u jeedaan yaa baraarugi doona oo ka falcelin doona ayaa laga yaabaa uu sii liici doona maxaa ka soo bixi doona hadda walaalkuna uu ka hadlayo Masar labadii istaraatiijiyadooda ilaalishanaysay mid ka mid ah Sinai iyo Mareykan Gaza iyo dhulkan uu ahaa reer Masar 120 milyan oo intooda badani gaajoonayo wey waxay samayn doonaan haddii Mareykan Gaza ay yuhuuddu la wareegto ma daawanayaan iyagana inta qaahira lala wareegayo mise dad uunbaa maaragtay wax diidi doono oo maaragtay si uu u gilgilan doono waa laga yaabaa inuu ilaahay wax ka keeno reer Suuriya oo hadda Suuriya way duqaynaysaa hadda yuhuuddu duqaymay ka wadaan gobollo Suuriya ka mida bay rabaan inay xoog ku qaataan oo ay qabsadaan reer Suuriya gacmaha ma laaban doonaan oo ma sugi doonaan inta halkooda loogu imanayo mise ugu yaraan dad uunbaa maaragtay moogtahay markastuu madowgu sii bato waa berigaa soo dhawaaday dhaha
marka hadda madowgii wuu sii badanayaa, madowgii wuu isa sii fuulaya. marka markastuu madow la sii galo inuu waa berigii soo dhow yahay ayaa iyadana waxyaaba mar walba karkaarada jabsan doonta laga fahmi doona. marka waxaa laga yaabaa inay kuwaasna maaragtay inay wax ka yimaadaan waa iska suurtagal. yuhuudda hadda waa la ilaalinaya, waa la waardiyeynaya. Maraykan iyo Yurub iyo si guud nidaamyada ka jira way ilaalinayaanoo maaragtay gacantay ku haya ilaa goorma laga yaabaa inay sii ilaaliyaan. iyadana runtii walaal waa laga yaabaa inay wax ka yimaadaan. marka waxaan isleeyahay wax horta degdeg u dhacayo maanta iyo berri la rajayn karo oo saas ma jiraan, laakiin waxa suurtagala daadega horta wuu bilaabmay. marka ma isloob buu socon doonaa, xoogaa buu soo daadegi doonaa, mise wuxuu bilaabmi doonaa si degdega. taas waa iska wax kale runtii waqtiga ka jawaabi doona. laakiin waxa xaqiiqo aan la dafiri karin 7 Oktoobar waxay fashilisay wax weyn oo waqti badan fahamkeeda uu ka qaadan lahaa adduunka, hadday gaal yihiin iyo hadday muslim yihiinba. uu fahamkooda waqti badan iyo tiiriye badan iyo wax badan uga baahan lahaa ayay si yaroo fudud ay runtii u fashilisay. marka muddo dheer la soo dhisayeen runtii way hadda waa fashilayha. waa ujeedaa hadda dee heshiiskii Abraahimid iyo cid xitaa hadal hayn kari karta hadda runtii oo maaragtay arrintaas lagu qancin karaa ma jirto. reer Falastiin dhulkooda in laga rarana hadda cid qasbi karto soo xaaqi karta iyaduna runtii ma jirto. waa la layn karaa bas layntaasna waxaa laga yaabaa markastuu mid ka dhinta sida hadda gabayga Hadraawiye la sheegay, markay 10 dhintaan ba 20 baa dhalanayo, dhib iyaduna ma laha. marka waxaan isleeyahay wuu daadeg wuu bilaabmay, laakiin intay qaadan doonto waliba reer Falastiin waxaa yiraahdaa waa dad taranka aad ugu badan maasha Allah. marka waxa laga yaabaa waxa cadow Ilaahay uu ku ibtilay haddana waxaa la yiraahdaa waa tarankooda, waa haddana waa dhamaan laay waa wax fiican oo ay runtii lagaga daydo. marka waxaan isleeyahay daadagaas Faysal aan hadda joognaa waqti baanay qaadan doontaa. waa laga yaabaa Ilaahay dee maaragtay isaga qadarka garanaya, laakiin yuhuudda 7 Oktoobar waxaa kaga soo baxay saamaynta istiraatiijiga waxay iyagu dabacsanaayeen. dhaawaca iyaga gaadhay baa kaga khatar badan ka reer Gaza iyo dadka muslimiintaas gaadhay. aad iyo aad jazakallahu khayran. guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkii Andalus Podcast oo aan ku falanqeynaynay duulaankii 7 Oktoobar iyo xasuuqii xigay ee yuhuuddu ka geysatay marinka Gaza, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. waxaan u mahad celinaynaa abwaanada barnaamijka ee nagala qayb galay, abwaan Nageeye, abwaan Jeesta iyo abwaan Hilaal. insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan barnaamij midkan lamid ah insha allahu tacaala mar kale aan dib ugu kulmi doono. sidaas iyo nabadgelyo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة، لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة، نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة، لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة، لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة، لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة، لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة. نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نحب الله والجنة ودرب